السلام عليكم مقعي وحسن مدنة waxaan ahay agaasimaha ku-xigeenka macadka hibad galabta waxaa miiska inoo saaran mawduuc muhiim ah oo ku saabsan casharada laga baran karo shirweynihii carta oo laga joogo 20 sano sida aad la socotaanba ama aad la wada socotaan shirkii carta wuxuu aas ku yahay dowladnimada aynu hadda heesano uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay mawduucaas muhiimka ah waxaa nala wadaagayo oo nala jooga Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah qof aan u baahnayn in hordhac laga bixiyo Dr. Maxamed Daahir Afrax waa qoraa hal abuur iyo cilmi baare darsa arrimaha bulshada dhaqanka iyo suugaanta wuxuu shahaadada PhD-ga ka qaatay jaamacadda University of London waana aasaasihii iyo gudoomiye sharafeedka naadiga qorayaasha ee Somali Pen waana tafiftiraha sare ee wargeys cilmiyeedka hal abuur xilligan wuxuu gudoomiye ka yahay akademi goboleedka af Soomaaliga marka magaca loo soo gaabiyo loo yaqaan aga ayuu gudoomiye ka yahay Dr. Afrax wuxuu daraasado iyo buugaag kala duwan ku qoray afaf kala duwan oo isugu jira af Soomaaliga Ingiriiska iyo Carabiga kuwa uu af Soomaaliga ku qoray waxa ugu caansan sheekadii Maanafay oo TikTok aad ku taqaanaan sidoo kale galti macruuf dhanka buugaagta cilmiga ah waxa ugu caansan bug la dhaho dal dad waayay iyo duni damiir beeshay oo aad intiina badanba wada taqaanaan bugan qayb dhan ayuu qoraag wuxuu uga hadlay shirkan carta ee aan maanta u fadhino ee aan inaan ka hadalno qayb dhan ayuu kaga hadlay ama jaftaro dhan ayuu kaga hadlay sidoo kale Dr. Maxamed Daahir Afrax wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanadii shirkaasi aas-aaska u noqday kadibna wuxuu ka mid noqday xildhibaanadii loo doortay dowladda halkaas lagu dhisay Dr. Maxamed Daahir Afrax soo dhawow doctore waxaa haysataa 30 daqiiqo 30 daqiiqo kadib waxaan u gudbin doonaa dhageystayaasha qaybgalayaasha su'aalaha waxaan isku raacsi doonaa shashan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan isku day doonaa waqtiga inaan ka faa'iideysano doctore soo dhawow xaadarada gudaha u gal mahadsantahay bismillaah waan salaamayaa dhammaan akhyaarta khadka ku jirta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ugu horreynta bogaadin iyo mahadcelin waxaa mudan qabanqaabiyayaasha kulankeenna Maxadka Geeska Afrika ee nabadaynta iyo horumarinta dadaalka dheeraadka ah ee ay geliyeen qabanqaabada kulankeenna iyo doorashada ay doorteen mawduuceena maanta mawduuca uu halkudhagiisu yahay hindisihii Jabuuti iyo soo noolayntii qarannimada Soomaaliya cinwaan hoosaadkiisuna yahay casharada laga baran karo shirweynihii carta 20 sano waa mawduuc ahamiyad weyn leh laguna beegay waqtigii ku habboonaa maalmahan aynu iminka ku jirno bishan 8aad sanadka 2020 waxaa ku buuxsamaya 20 sano oo ka soo wareegatay maalmihii uu guusha ku soo gabagaboobay shirweynihii nabadaynta iyo dib u dhiska dowladda Soomaaliyeed kadib markii uu shirkaasi muddo 6 bilood ka socday magaalada Carta dalka Jabuuti dacdooyinkii soo maray taariikhda casriga ah ee ummadda Soomaaliyeed 3 dhacdo ayaa ugu waaweyn 3daas dhacdo waxaa oo 3duba ay yihiin 3 isku xiran oo silsilada oo isku xigay waxay kala yihiin dhalashadii iyo dhimashadii iyo dib u dhalashadii dowladda Soomaaliyeed macnaha dhalashadii dowladda la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya ay dhalatay sanadkii 1960kii dhacdada ku xigtay ee labaad waxay ahayd dhimashadii dowladdii barigaas la dhalatay ay dhimatay sanadkii 19
iyo 1991 dhacdadii ku xigtay waxay ahayd dib u dhalashadii dowladnimadii dhimatay ay dib u dhalatay sanadkii 2000 saddexdaa dhacdo ma jiraan dhacdooyin la miisaan ah oo soo maray taariikhda Soomaaliya labada hore waa iska caadi waxa weeye dhalashada iyo dhimashadu waxa afka carabiga lagu yiraahdo sunnatul hayaa waa sunnada nolosha weeye nolol kasta waa dhashaa waana dhintaa tan dambase oo saddexaad ma aha wax caadiya maaha oo la yaqaan macnaha dhinta dib u soo noolaada yani ma aha wax yani muxuu ahaa la arko caadi ahaan waa wax lagu tilmaami karo mucjizo marka waxaa la isweydiin karaa sidee ku dhacday mucjizada noocaasi yaa godka ka soo saaray meydkii dhintay ee laga quustay waa la garan karaa howlgalkii mucjisadaas lagu suurtageliyey in aanu ahayn howlgal caadi ah waxaa kale oo la garan karaa abaalka ay Soomaali ku leedahay ciddii u guntatay u howlgashay nafta ag dhigtay ugu dambayntiina ka mira dhalisay mucjisada intaa leeg ciddii u guntatay ciddii marka aan leeyahay shaki kuma jiro sawirka u horeeya ee maskaxdiina ku soo dhacaya in uu noqonayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti kan ku xigaana uu noqonayo dowladda iyo dadka reer Djibouti ee aan walaalaha nahay waa wax la wada garan karo dhacdooyinkaas ama dhacdadaas lagu soo nooleeyey shay dhintay in ay tahay mid laga baran karo wax badan casharo dhaxalgal ah casharo wax weyn ka tari kara sidii dadka Soomaaliyeed ay ku gaari lahaayeen mustaqbal ka wanaagsan xaaladda maanta lagu sugan yahay sidaa awgeed munaasabadda 20 guurada dhacdadii miisaankaas lahayd shaki kuma jiro in ay tahay fursad ku habboon in la dul joogsado in dib loo jalleeco wixii dhacay in la isweydiiyo sidii ay ku dhaceen ciddii dhaqaajisay ciddii maal iyo maskax u hurtay midhaha laga faa'iidaystay kuwa laga sii faa'iidaysan kari lahaa laakiin baaqsaday sababta ay u baaqdeen sida mustaqbalka wax looga baran karo sida ay waajib u tahay in kayd adag iyo xusuus maguuraan ah la geliyo taariikhdaas dahabiga ah 20 guuradu waa fursad intaas oo dhan lagu xasuusto run ahaan waxaa jirtay in 2 sano ka hor la qorsheeyey in marka la gaaro xilliga aynu maanta joogno oo ah sanad guurada 20aad marka ay soo afjaranto sanadkan 2020 bishiisa 8aad in la sameeyo tamaashaad weyn oo muddo 7 ah ilaa dad gaaraya 500 oo qof oo nooc walba leh la isugu geeyo magaaladii Carta ee taariikhda gashay tamaashaad xus ka kooban wax badan oo lagu waarinayo xusuustii dhacdadii Carta laakiinse qorshahaas asaga ah oo aan aniga idinla hadlayaa qudheedu aan ka mid ahaa dadkii u howlgalay waxaa caqabad ku noqday aafadii coronavirus adduunka oo idil curyaamisay habase ahaatee inteennan maanta madashan ku kulansan iyo inta uu warkeennu gaaraba tallaabadan aynu itaalkeen ama tallaabadan ah yani kulankan aynu u fadhino ayaynu itaalkeen ku xusaynaa ama ku xusuusanaynaa taariikhdaas dahabiga ah mid kale waxaa dhacday bishii ina dhaaftay magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho habeen ayaa lagu qabtay xaflad heer qaran ah oo lagu xusay munaasabadaas iyada ah waxaa la raaciyey
xuska maalmihii gobonimada ama maalmihii muxuu ahaa calansaarka Soomaaliya sax ayayna ahayd fikraddaasi maxaa yeelay waxay ahayd munaasabadii calanka Soomaaliya ciidda laga qaaday ee dib hawada loo suray ayay ahayd macnaha waxay ahayd dhalashadii uu dib u dhashay yani calanka labaad dhalashadii labaad ee calanka ayay ahayd haddaba haddaan u soo noqdo mawduuceena maanta ee ah isxusuusinta hindisihii Jabuuti ee badbaadinta Soomaaliya way noo wada muuqan kartaa in aanay ahayn arrin ama inuu yahay arrin aad u baaxad weyn mawduuc ay badan yihiin dhinacyada u baahan in laga eego ama laga hadlo waase mawduuc soo koobistiisu ay ku adag tahay qof sidayda oo kale ka mid ahaa dadkii hawshaas dhexda kaga jiray taariikhdaas wax ka falkinaya sida uu tilmaamay saaxiibkay xasan waxaan ka mid ahaa dhowrkii qof ee ugu horreeyey ee Jabuuti u tagay talabadsiga waxa ay tahay in la qabto iyo sida loo baahan yahay in loo qabto marka haddaba waa la garwaaqsan karaa xusuustaasi sida ay u kicin karto xiska iyo dareenka dadka ila midka ah waxaa ku qaadanaysa mawjad caatifadeed oo badweyn ugu dhex tuuraysa haddaba si aan isugu dayo in aan hadalku naga baahin aan ka ambaqaadno dhowr su'aalood oo udubdhexaad ah su'aalo noqda diiradda nagu hagaysa dhinacyada ay tahay in loo iftiimiyo dadka u baahan in lala wadaago xog waranka taariikhdaas aan caadiga ahayn su'aalahaas tan koowaad waxay tahay maxay ahaayeen duruufihii jiray ee lagama maarmaanka ka dhigay in loo bareero tilaabo sidaas u culus sideese ku bilaabatay su'aasha labaad ayaa ah yani sidee bay ku bilaabatay su'aasha saddexaad waxa weeye sidee uga falceliyeen dadka reer Jabuuti kolkii uu madaxweynahoodu u soo bandhigay martigelinta shirweyne noocaas ah su'aasha afraad maxaa ku kallifay reer Jabuuti in ay qaadaan culayska sidaa u weyn su'aasha shanaad sidee ayana uga falceliyeen ama uga jawaabeen dadka Soomaaliyeed markii uu gaaray baaqii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle su'aasha ku xigta muxuu uga duwanaa shirkaasi kuwii ka horreeyey ee wada fashilmay ee tiradoodu ay gaaraysay ilaa iyo 11 ama 11 shir oo ku wada magacoonaa shirar dib u heshiisiin iyo nabadeyn Soomaaliya sidii uu ku magacoonaa aanu ka hadlaynaa maxaa keenan ku caawiyey in uu noqdo kii ugu horreeyey ee lagu guulaystay maxay ahaayeen saameeyayaashii caawiyey su'aasha toddobaad waxa weeye maxay yihiin natiijooyinka laga dhaxlay noqon kara xusuus lama ilaawaan ah su'aasha kale maxaa ka qaldamay ama laga taban karaa su'aasha ugu dambaysa waa maxay casharada laga baran karo taariikhdaas muhiimka ah waqtiga kooban ee la siiyey waxaan isku dayi doonaa inaan idinla wadaago jawaabaha laga bixin karo 9 su'aalood intii uu saamaxo waqtiga kooban ee aan haysto iyo waayo aragnimadii aan u soo joogay arrimahaasi markii ay dhacayeen dabcan ma hayno waqti ku filan in si waafi ah looga wada bogto oo laga wada jawaabo su'aalahaas oo dhan aan soo tahay wixiise aan ka tago ama cidi ay si kale u aragto idinka ayaa ii kabi doona wixii innaga oo dhan aynu kulankan kaga gaari weynana qof kasta oo inaga mid yaha lahoydu oo ha ka dhigto waxa loo yaqaano homework uu ku sii fakero haddaba
ku bilowna su'aasha koowaad ee ku saabsanayd iftiiminta musduleedka musduleed ama mustambeed markaan leeyahay waxaan ula jeedaa waxa afka ingiriiska lagu yidhaahdo background ama afka carabiga khalfiya ayaan af soomaaliga ku magacaabnaa mustambeed macnaha shirweynahaas qabashadiisu halka ay ka soo jeedo iyo duruufihii ku xeernaa ee lagama maarmaanka ka dhigay in uu qabsoomo sida la wada og yahay dhowr iyo 10 sano ee ugu dambeeyey qarnigii 20aad Soomaaliya waxaa ku dhacday musiibo aan meel kale ka dhicin dunida taariikhda casriga ah dagaal sokeeye waa dhacaa burburna waa ku dhacaa wadamada laakiinse meel kale kama dhicin dal dan oo dawlad lahaa qaran ah oo magac dheer leh dawlad dunida wada tixgeliso oo wada aqoonsan tahay lahaa oo mar walba laga waayo khariidada caalamka yani gabi ahaanba yani ma dhicin meel kale kama dhicin sababta keentayna ay ahayd yani ama sababta yani sidaas waddankaas yani u gashay oo khariidada ka saartay aanay ahayn cadow shisheeye oo dibadda uga soo duulay way dhacdaa wadamo cadow intii ku soo duulay cagta mariyo 10 sanaalihii 1990 waxaa maabka dunida laga waayay dalkii magaciisu ahaa Soomaaliya waxaa la xidhiidhsiibay dhismihii dawladnimo iyo duntii uu ka samaysnaa mujtamaca Soomaaligu magacii Soomaali ayaa dhintay ummadii lahayd ayaa dulli dayac iyo dalanbaabi meel kasta daadsanayd dadkii caadiga ahaa oo Soomaalida ahaa waxa ay ahayd cawaaqib xumo laga dhaxlay dagaal sokeeye oo ka dhashay ama ay dabkiisa horisay huriyeen qabyaalad iyo hoggaan xumo iyo debino cadow shisheeye oo ka faa'iidaystay ciladaha Soomaalida iyo hoggaankeeda dunida ma jiro dal aan cadow lahayn Soomaaliduna waabay ka sii xag jirtaa cadowga ummadda Soomaaliyeed ayaa ka faa'iidaystay qaranjabkii Soomaali ku dhacay 4 jaho ayaa looga soo qamaamay hubka la isugu dhiibay khayraadkoodii la kala boobay sidii dhulka loo jajabsan lahaa oo loo jabjaran lahaa la qorshaystay laga dhigtay khashin qub laga soo buuxiyo qashinkii nuclearka iyo wasakhda sunta ay warshadaha dalalka hore u waayeen meel ay ku daadiyaan ama ay uga takhalusaan 10 sano ayaa waxaa nala ku maaweelinayay shirar hoosaasin ah oo marba waddan shisheeye la isugu geynayay dagaal oogayaashii burburka hogaaminayay dagaal oogayaal dantooda ay yani ka dhex arkayay dagaalka iyo dowlad la'aanta dalkii Soomaaliyeed dowladnimo iyo nolol sharaf leh waa ka qoosteen dadkii Soomaalida ahaa sidii ay dowladnimo u ekayd way laaween halkaas kolkii ay arrinimadaysay ayuunba mar qura waxaa la maqlay dhawaaq dheer oo samada ka yeeray sokeeye ka damqaday silica dadka Soomaaliyeed la baday iyo cadowga ku diganaya ayaa ishayn kari waayay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka dhex kacay fadhigii 54 ee golaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ka dhex kacay oo ka dhex qayliyay maalintii bishii Sebtembar ahayd 22 ama 22kii 1999 ama 99kii wuxuu halkaas ka soo jeediyey khudbad taariikhi ah oo uu ku gelgelay damiirka bulshada caalamka wuxuu ku canaantay in ay ka seexdeen waajibkii ka saarnaa
badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee tabaalaysan. Dalka loo wada muxuu ahaa dalka laga wada seexday oo dhabarka loo jeediyey, halka loogu wada gurmaday oo la badbaadiyey dhammaan dalalkii kale ee ay ku dhaceen dhibaatada Soomaaliya ku dhacday mid la mid ah burbur dagaal sokeeye. dabcan waqtigu nooma saamaxayo isxusuusinta erayadii taariikhiga ahaa ee uu halkaas maalintaa ka soo jeediyey Ismaaciil Cumar Geelle oo adduunka oo dhan muxuu ahaa damiirkiisa gelgelay. si kooban wuxuu adduun weynaha ku qanciyey in ay aqbalaan ama aqbalaad ay siiyaan gurmad Jabuuti ay u fidiso walaalahooda Soomaaliyeed, in aan waxba laga qabin oo la carqaladayn Jabuuti inay martigeliso shirweyne la isugu keenayo dhammaan qaybaha bulshaweynta Soomaaliyeed si ay uga heshiiyaan wixii dhexdooda ka dhacay meesha ay yaallaan ay uga kacaan. aqbalaadaas ayuu ka soo dhameeyey ururada heer caalami, heer qaaradeed iyo heer gobol ee dunida ka jira, yani qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, jaamacadda carabta, ururka islaamka, ugaad wixii oo dhan midba markiisa. ujeedkiisu ma ahayn yani Ismaaciil Cumar Geelle in uu arrintan ka dhigto mashruuc ay beesha caalamku ku maalgeliso oo Jabuuti ka lacagaysato sidii ay yeeli jireen dowladihii ka horreeyey ee martigelin jiray yani shirar noocaasa oo Soomaalida la isugu keeno. ujeedka qura ee uu adduun weynaha ka doonayey Ismaaciil Cumar wuxuu ahaa in ayan caqabad ku noqon dadaalka Jabuuti ay hormuudka ka tahay, ay la socdaan, ay ogaadaan aan hadhow la fashilin. kolkii ay yidhaahdeen noo soo sheeg haddaba kharashka ku baxaya si aanu u bixinno, Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisu waxa ay ku jawaabeen waad mahadsan tihiin, iska haysta wixiina annagaa ku filan. si kastoo loogu celceliyey oo la isku dayay in lagu qanciyo waa diideen, maxaa yeelay wuxuu rumaysnaa hadday faraha la soo galaan ajnabi kale inay fashilin doonaan dadaalka uu wado sidii ay u fashiliyeen kuwii hore. casharkii yani laga bartay kuwii hore ayuu xusuusnaa. bilowgii way rumaysan kari waayeen Jabuutidan yar ee miskiinta ah ee dhaqaalaheeda loog yahay ayaa qaadi karaysa culays intaa la eg. waxaa la yidhaahay iska daaya bal aragna waxay sameeyaan kolleyba iyagaa ku fashilmi dooneen markay la kufaan unbaa maaragtay talo ay noo taalla. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle marka uu iska soo bale xijaabay dowladihii dibadda ama quwadihii dibadda ayaa waxa uu bilaabay in uu arrinkii u soo bandhigo dadka reer Jabuuti iyo dowladdooda, iyaguna gacmo furan iyo qalbi furan ayay ku soo dhaweeyeen. gurmad aan loo kala harin ayay dhexda u wada xirteen, laga bilaabo madaxweynaha ilaa islaamaha tabaandhada ku iibinaya suuqa oo wixii yaraa ee soo galay muxuu ahaa qoondo ugu talagalay in ay ku caawiyaan shirka, ilaa iyo raacatadii iyo xoolodhaqatadii kuwii Soomaalida iska daayay kuwii cafarta ahaa ee meelaha ugu fog maaragtay xoolaha ku raacayay ay keenaan iyagoo wada xoolahoodii oo ay intii ugu fiicnayd muxuu ahaa ku martigelinayeen ergooyinkii shirka muxuu ahaa carta ku shirsanaa oo tiradooda ku dhaafaysay ilaa 3,000. waxay muujiyeen hiil walaal oo dhab ah. waxay fidiyeen gogol martigelineed oo ka tarjumaysa hiilkaas. haddaba su-aashii ku xigtay taas waxay ahayd maxaa ku kallifay reer Jabuuti iyo madaxweynahooda in ay qaadaan yani culayska intaa leeg. waxa weeye waxaa jira Soomaalida dadka dhinaca xun ka eega arrimaha ama muraayadaha madow u gashada. qaar ka mida waxay yidhaahdaan way ku danaysanayeen oo waxa weeye waxay rabeen in ay ku soo jiitaan muxuu ahaa dibadda lacag uga soo jiitaan ama inay dana kale maaragtay ay ku gaaraan. dabcan haddii ay doonayaan inay
lacagtu helaan watan aan leenahay waabay diideenba wax ma garanaysaa dibadda haba yaraatee ka soo gala iyagaa wixii yaraayo ay haysteen ku baabiiyey dantoodiina iyo howlihii qaranka muddo 6 bilooda sanad yani nuskiis aan wax kale la qaban shirkaas mooyaan marka sababtu ma ahayn taas waxa weeye sababuhu waxay ahaayeen dhowr sababood 4 sababood ama 5 kow sababta koowaad waxay ahayd waxay mar walba ku hadaaqi jireen oo oran jireen abaal baan gudaynaa waxaa jirta maamaha Soomaaliyeed oo la yiraahdo nasab waa kii abaal guda marka waxay noqdeen nasab abaal gudaya abaalkaasi wuxuu ahaa macnaha waxa ay rumaysnaayeen madaxweynaha iyo dadka iyo dawladda reer Djibouti intuba inay Soomaaliya markii ay ka itaal roonayd ay abaal weyn u gashay Djibouti oo ay qayb weyn ka ahayd ama kaalin libaax ay ku lahayd yani xoreyntii Djibouti la xoreeyay sababta labaad waxa ay ahayd masiirka labada dal oo isku xiran dib iyo dheefba macnaha waxay kaloo aaminsanaa madaxweynaha Djibouti iyo dawladdiisuba iyo dadkiisu in ay Soomaaliya haddii la waayo Djiboutina waa la waayaya yani halku dhag ah ayaa jiray oo waxa weeye in garab yani muxuu ahaa hiil iyo hoo uu meesha ka baxayo oo markaa iyaguna markaas muxuu ahaa ay ku xigi doonaan si fudud meesha looga saari karayo masiirku macnaha inuu isku xiran yahay labada wadan su-aasha saddexaad waxay ahayd damqasho ehelnimo ayaa waday oo wataa aanu ku maaragtay muxuu ahaa kusoo gaabinayo hiil walaal ayaa waday sababta afraad waxay ahayd istiraatiijiyadda isbahaysiga dunida waxa weeye dunidu waxa ay ku dhisan tahay ma jirto cid kaligeed cidla taagan blocks waxaan ingiriiska lagu yiraahdo weeye dunidu oo cid waliba waxay leedahay saaxiibo iyo maaragtay muxuu ahaa garab cid ay iskarabsadaan oo yani ay dano isku xireen ama ehelnimo isku xirtay ama af isku xiray ama muxuu ahaa ay isku xirtay istiraatiijiyad ka dhaxaysa oo isku dan yihiin marka garabka ugu sokeeyo garab waxay u arkayeen ay inuu ku banaanaanayo maaragtay garabkii ay Soomaaliya u ahayd oo istiraatiijiga ah muxuu ahaa sababta kale oo shanaad dabcan 6 sababood ayaa maaragtay aan xusuusanaya sababta shanaad markaa waxay ahayd Djibouti waxa ma ahayn oo keliya in ay Soomaaliya ka faa'iideysatay yani gurmadka ay fidisay way ka faa'iideysatay Djibouti lafteeda faa'iido uga soo xasishay faa'iidadaasna ma mid maadi ah sida dadkii aan sheegay ay ku macneynayeen waxa weeye mid macnawi ah magacii Djibouti ayaa kor u kacay iyo sumcadeedii adduunkii oo dhan ayaa bartay muxuu ahaa Djibouti yani meesha yar oo awal aan cidina aqoon oo qofkii yiraahdo waa ka imi marka safarada iyo aan muxuu ahaa iraahdo waxaan ka soo duulay Djibouti xagee ah la oran jiray ayaa waxa xataa la bartay oo aan noqotay magaalada Carta oo noqotay magac caalami ah waxa kale oo la bartay kartida iyo isku kalsoonida ay leeyihiin dadka reer Djibouti oo cid kale aan lagu arag inay yiraahdaan yani annaga isku filan ciidanay muxuu ahaa faraha nala soo gal barasho waxay ahayd la bartay oo dadka Soomaalida xataana ay barteen oo 10 oo ahayd dunidana ay baratay waxaa dabcan la bartay oo barashadaas yani ka mid ahayd muxuu ahaa maqaamkii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar laftiisa oo markaas ku cusbaa saaxadda hogaamiye ahaan oo asagoo 2 bilood ka hor oo kaliya la doortay yani wixii ugu horeeyay oo hawshii ugu horeysay ku dhaqaaqay halkii uu dalkiisa hawl ka qaban lahaa ay tan noqotay ayaa markii dambe noqday hogaamiye caan ah oo maanta adduunka oo dhan laga yaqaan Soomaalida dhexdeedana ka noqday halyey qaran oo kale oo Soomaalida yani niyadda wanaagsan oo dhan hadda markaa soo hadal qaaday magaciisa yani magacii hajir oo oranaya oo u haysta maanta u yaqaan halyey inuu yahay u soo baxay wuxuuna ku soo baxay halyey ku noqday waa arrintaas iyo hiilka uu mar walba u heliyo ummadda Soomaaliyeed waxa ka dhaxeeya oo afka iyo dhaqanka iyo aqoonta iyo waxa la midka faa'iidada ugu ama ujeedada ugu dambaysa waxa weeye muxuu ahaa laga faa'iiday
isdhexgal iyo isbarasho labadii dhinac iyo labadii dad dhex maray ayaa ay sababtay way tahay haddaba haddaan u tagno muxuu ahaa su-aashii ku xigtay oo ah su-aashii shanaad ahayd waxay ahayd dadka Soomaaliyeed sidee bay uga falceliyeen iyaguna dhankooda baaqi Ismaaciil Cumar Geelle iyo gobashii Jabuuti ay fidisay waxa ay si la yaab leh u hanteen qulubta dadka Soomaaliyeed waxa ay arkeen oo dadka Soomaaliyeed ka dhex arkeen yani tallaabadaas rajo cusub oo u bidhaantay Soomaali meel ay joogtayba gudaha iyo dibadba tamaashaad iyo masxarad baa xalgaha la goostay taageero aan hore loo arag oo shir yani sidaa loo taageeray usan soo marin yani taariikhda Soomaalida ayaa meel walba muxuu ahaa cid waliba meeshii ay joogtay uga bannaan baxday uga damaashaaday uga muxuu ahaa buraanburtay tallaabadii magaceedu u ahaa hindisaha Jabuuti adduunku maartii u yaqaanay Djibouti Initiative يعني محوها انتشار جيبوتي بالبلاد الصومالية شعور تعاين كاس الشعب الصومالي وحو كموتشي بنا بحيث تاغيرا قرالو تلوكوردين كولانو ay ka bixinayeen baaqyo isdabajooga mawjado su'an iyo suugaan oo mar qor soo burqaday halabuurka Soomaaliyeed ka soo burqaday taas oo ay ka keentay layda yani yidiidiyada cusub oo Djibouti uga muuqatay marka taban waqti haddaan haysan lahayn yani waxa ka soo qaadan lahayn tusaalooyin maartaan oo kamid suugaantaas taban Soomaalidu ka tirisay inta shirkaas taageeradiisa iyo intii socday iyo xataa intii ka dambeysay hadii la ururiyo waxa ka soo bixi kara malaha waxaan ka yareen yani dhowr iyo kontomeeyo buug ayaa ka soo bixi karta laakiin waqti uma hayno kaliya waxa muxuu ahaa halku dhag aan noqday oo suugaantaas maartay muxuu ahaa nuxurkeeda soo koobaya ayaa wuxuu ahaa calool nibiraad ka soo celisay Ismaaciil Cumar Geelle aan noqo wuxuu ahaa tudco ka mid ahaa tix uu lahaa abwaankii weynaa allah u naxariistay Cabdulqaadir Xis Yamyam haddaba waxaa muxuu ahaa waxaanu taas yani kusii waqtiga beeqaaminayna awgiis halkaas loo gudbaynaa su-aashaas yani muxuu jawaabteedii su-aashii lixaad ee ku xigtay maxay ahaayeen mabaadi'dii hagaysay iyo himilooyinkii la higsanayay oo lala higsanayay yani shirkaas labadaas laga lahaa maxay ahaayeen falsafadii hogaaminaysay shirweynaha saldhigeedu wuxuu ahaa laba qodob kan koowaad wuxuu ahaa halku dhaggii reer Djibouti ay muxuu ahaa Soomaalida uga dhigeen halqabsi ay la hortaagnaayeen oo ahaa anaguna gobasha idinku go'aanka anagu gobasha un baan idin fidinay waa idin baaqnay inaad isu timaadaan go'aankiina idinka leh idinka idin jirtaa wixii aad go'aansanaysaan laakiin waxaan idinku waayna idinku ducaynaa inaad heshiisaan oo dowlad dhisataan marka halkaas kaan mabda buu ahaa yani mabda'a labaad wuxuu ahaa go'aankaas cidda yeelanaysaa in ay noqoto bulshooyinka Soomaaliyeed yani matalayaasha dhabta ee dadka Soomaaliyeed in la siiyo fursad ay aayahooda ayagu kaga tashadaan markii ugu horeysay yani taariikhda yani casriga yani muxuu 10 sanaalayaashii ugu dambeeyay oo muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed oo matalayaasha dhabta oo waliba ay hormuud u yihiin bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan sidii markaas ay himiladu ahayd himiladii la higsanayay ama istiraatiijiyadii laga lahaa shirweynaha waxaa saldhig u ahaa 4 qodob qodobkooda wuxuu ahaa dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed qodobka labaad wuxuu ahaa dib u yagleelka dowladnimadii la burburiyey qodobka saddexaad wuxuu ahaa dib ugu celinta Soomaaliya tagaarayaashii beesha caalamka ee 10 sano laga waayay ujeedka afraad ee ugu dambeeya wuxuu ahaa dib u dhiska dalkii burburay
qodobadaas ujeedooyinkaas shirka saldhigga u ahaa nuxurka documentigii hagayay shirweynaha cinwaankiisu uu ahaa af ingiriis buu ku qoraa marka wuxuu ahaa cinwaankiisu Somali Peace and Reconciliation Conference Djibouti Initiative-na maaragtay way ka horreysay marka waa documenti maaragtay weyn caalami ah meel walba laga helayo yaalo internetka ku jira marka halkaasuu ka daalacan karaa maaragtay qofkii sii danaynaya maaragtay faahfaahin si himilooyinkaas haddaba loo gaaro waxaa shirka lagu bilaabay shirar la tashi ah oo la isugu keenayay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed marba qayb lagu martigelinayo lagu martiqaadayay inay isugu yimaadaan magaalada Djibouti oo muxuu ahaa ay ku qabtaan shir ay talooyinka sida ay la tahay in la yeelo iyo waxay masiirka Soomaaliya ay ka qabaan Soomaalida sidii ujeedooyinka loo gaari lahaa muxuu ahaa lagala tashanayay oo ay go'aansanayeen dabeedna soo saarayeen shirarkaas markaa waxaa ugu horreeyey shir aqoon-yahanada la isugu yeeray dadkii maskaxmaalkii la biday oo meel walba waddanka qaybihiisa oo dhan kala duwan iyo dibadahaba meel walba looga yeeray oo tiradoodu ilaa 40 dhowr iyo 40 ay gaaraysay iyo dhowr iyo 50 hadda aad ma xasuusto runtii caadadkii inkastoo waa ka mid ah dadkii qabanqaabada qoladii ku xigtay waxay ahayn ganacsatada oo iyagana markooda shirkaas kale loo qabtay la tashiga qoladii saddexaad waxay ahaayeen qolo lagu magacaabay rugcadaagii hore ee siyaasadda odayadii siyaasadda kusoo jiri jiray oo hogaamin jiray Soomaaliya waagii ay intaanay burburin ayaa intii wax la bidayay oo dhan loo yeeray oo la weydiiyey barwaaqo-aragnimadoodaas sidii looga faa'iidaysan lahaa iyo waxay ku talinayaan waxaa qorshaysnayd qaybaha kale oo dhan in halkaa laga sii wado dhalinyarada haweenka hogaamiye dhaqameedyada muxuu ahaa halabuurka dadkaas oo dhan hase yeeshee waqtigii ayaa maaragtay wuxuu ku socday xawli badan culayskiina waa soo batay wax badan baa dadkii baa soo buuqay oo iska soo yaacay waxay noqotay markaa in lagu degdego furitaankii rasmiga ahaa ee shirkii baa markaa rasmi ahaan loo furay waxaa la furay 2 bishii May sanadkii 2000 waxaana uu ku bilowday dhowr marxaladood baa loo qaybiyey marxaladii ugu horreysay waxa ay ahayd ma dhowr wejigii ugu horreeyey wuxuu ahaa dib u heshiisiin bal horta dadka in yani dib loo heshiisiyo dadkii colaadda muxuu ahaa dhex martay oo isu wada dhaarsanaa dhibaato aad u fara badan ayaa laga soo maray socodsiinta shirka guud ahaan gaar ahaanna marxaladaas dib u heshiisiinta marar badan ayuu maaragtay ku sigtay shirku inuu muxuu ahaa lagu kala tago oo Soomaalida sidii loo heshiisay waa iska garanaynaa inagu Soomaali baan nahay maa kaliya intayadii markaas goob joog ahayd xataa qof kasta Soomaaliya uu garan karaa marka dhib badan baa lagala kulmay ilaa uu maaragtay markii dambe muxuu ahaa marka lagu dhawaaday quus dadka dhibta keenayana ma aha dadkii Soomaaliyeed caadiga meel walba ka soo yaacay oo xataa meelo la diiday inay ka soo baxaan soo xarga goosto oo soo dhuuntay oo qaar iyagoo mudaharaadaya la xabadeeyey oo ay ku dhinteen oo qaar jidka ay ku dhinteen oo baakuur iyagoo soo lugeynaya jacaylihii ay u qabeen maaragtay dowladnimo iyo heshiisiin iyo nabad darteed dadkii caynkaas ma ahayn dadka la kari waayey oo shirka in lagu kala tago sababayay waxay ahaayeen kuwii awalba maaragtay muxuu ahaa qaybta ka ahaa dhibaatadii dhacday marka markii dambe nasiib wanaag yani ma dhicin yani shirkii in lagu kala tago markaan leeyahay mar buu soo gaaray maaragtay marxaladaas yani halista ah waxaan xusuustaa maalin aan fadhiinay shirka oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu soo galay asagoo la moodo inuu ilmaynayo uu yidhi hadal caan noqday oo muxuu ahaa ay dadka Soomaaliyeed yani aad yani damiirkooda oo waxay isku xishoodeen wixii waday yani khilaafaadka wuxuu yidhi waan idin hiiliyey macnaha waxaa meeshaan u fadhinaa waa hil idinkaan idin hiilinayno marka noogu hiliya inaan idin hiilino haddaba si kastaba yani dhib badan kadib nasiib wanaag waxa ay noqotay muxuu ahaa waa la heshiiyey arrinta labaad oo iyaduna dhibta bandeed waxay ahayd matalaadda sidii loo heli lahaa muxuu ahaa
sidii wixii lagu salayn lahaa matalaadda yani cidda matalaysa dhinacyada kala duwan ee soomaalidii muxuu ahaa qabeedii isu timid muxuu ahaa ambaqaadkii hore mabda shirka uu ku dhisnaa waxa uu ahaa in laga gudbo wixii la oran jiray yani wixii shirarkii hore oo dhan la oran jiray qabqablayaasha dagaalka ayaa matalaya maaragtay soomaaliya iyaga la heshiisiyo taa in la bedelo waxaa kale oo fikradda hore ku dhisnayd matalaadii ahaa qabiilka oo in maaragtay muxuu ahaa la yidhaahdo qolo walba yani qabiil waliba ha soo dirsado cid matalaysa taana in maaragtay muxuu ahaa laga daayo oo inaan dowladnimo qabiil lagu dhisi karin fikradda ayaa laga amba qaaday marka waxaa la yidhi waddankiina kama jirin maaragtay wax qaab dhismeedyo kale oo sida axzaab iyo wax la mida mar baa la soo qaaday yani in degaan iyo waxaas iyo maaragtay lagu saleeyo doodo dhaadheer baa ka dhacay aakhirkii calaa kulli xaal waxaa intii qabtay in laga leexdo waddadii hore oo ahayd maaragtay qabiilka iyo qabqablayaasha intii qabtay waxaa ka xoog badatay oo jiirtay ummaddii kaloo soomaaliyeed oo soo yaacday ay ugu horreeyeen odayaashii rugcadaaga siyaasadda la biday iyo kuwii qabaa'ilka matalayay iyo waxaasoo dhan oo yidhi ma jirto wax kale oo maaragtay lagu salayn karo yani matalaadaas oo aan ahayn qabyaalad waa in qabiil maaragtay loo xisaabtamaa qabiil lagu saleeyaa oo lagu soo doortaa maaragtay odayada qabiilku ay soo xulaan xildhibaanada ila waxa ugu horreeya la dhisaya waa baarlamaan waa in la dhiso 3 dhisme oo waaweyn baa dabcan ay ka bilaamaysay dib u dhiska dowladdu wuxuu ahaa in la dejiyo dastuur ama axdi qaran midda labaad waxay ahayd baarlamaan in la dhiso labadaas iyo udub dhexaadkii way ugu horreeyey waxaa ku xigtay madaxweyne in la doorto madaxweynehuna ra'iisul wasaare magacaabo oo xukuumad la dhiso marka baarlamaanka tiir dhexaad ahaa markii la charterkii ama maaragtay axdi qarameedkii la dejiyey oo baarlamaankii la yimi waa marka dooda ugu weyn marka ay dhacayso oo maxaa lagu salaynayaa marka calaa kulli xaal waxaa adkaatay qoladii wadatay ha lagu saleeyo maaragtay muxuu ahaa qabiilka ha lagu saleeyo odayaasha qabiil walba ha soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka galaya ee halkaan matalaya marka waa meesha ay ka dhalatay waxa loo yaqaano 4.5 oo aniga iyo dadan ka mid nahay aanu maaragtay u haysano kansarka siyaasadda soomaalida ku jira maanta yani formule qabiil ku dhisan oo dowlad lagu dhisayo markaas waxay noqotay wax dadka soomaaliyeedna maaragtay muxuu ahaa ilaa waatii la yidhi go-aankiina idinkaa leh dad baa ku eedeeya yidhaahda dadka aan ama xoogaal ka ahayn ama ujeeddo kale waxay yidhahdaan oo 4.5 kana aan raalli ka ahayn muxuu ahaa dhaliila jabuuti baa noo keentay 4.5 oo cartay ka timi laakiin xaqiiqda xoogaalnimo ahaan iyo dadkii xoogaalka ah waxaan ognahay inay jabuuti shaqo ku lahayn ayna markii horena yani ku talagelin kuna qorayn maaragtay muxuu ahaa documentigii shirku ku salaysnaa waxay ahayd wax ay la yimaadeen ilaa jabuuti waxay yidhaahdeen waxay ku socdeen mabda'ii ahaa annagana goobasha idinkuna go-aanka soomaalidaa lahayd soomaalidii go-aanka lahayd baa waxaan laga kari waayo la timi marka sina haddii loo fiirsana yani waxa garawsho waxaa loo arkay wax laga garaabo in ay adag tahay waxyaalihii kale oo lagu salayn lahaa maadaama nasiib darro ayan jirin muxuu ahaa axzaab iyo maaragtay wax lamida iyo maamullo sida hadda maamul goboleedyo ay u jiraan yani hal maamul goboleedyo jiray waagaas wax cid maamul u dhisnaa oo jirtay waxaa ka jiray somaliland oo ayagu shirka aan imaan diiday iyo puntland oo markii hore qayb ka ahaa laakiin maamulkoodu markii dambe uu ka baxay oo laakiin dadku ay joogeen oo ay ahaayeen dadka ugu horreeya qolyaha aan leeyahay mudaharaad ay barnaamijyadii ay ku taageerayeen oo maaragtay lagu laayay qaar iyo dadkii soo jabay oo soo lugeeyey ama maaragtay muxuu ahaa si silaca ku yimid jabuuti way dhoobnaayeen meesha marka laakiin maamul ma matalayn waxaa laga yaabaa haddii maamulada sida hadda oo kale maanta maamul goboleed meel walba uu ku jiri lahaa in la oran lahaa maamul goboleedyadu ha matalaan maaragtay ha soo diraan dadkii matalayay yani muxuu ahaa aagaas marka 4.5 yani waxaan sidaasay ku timi welibana waxay ahayd heshiiska lagu heshiiyey oo lagu aqbalay wuxuu ahaa keliya waxay ku ekaan doontaa inta shirku socdo ilaa inta laga dhisayo baarlamaan qaran la dhisayo laakiin maalinta baarlamaan qaran la magacaabo ayaa ugu dambaysa in qabiil wax lagu qaybsado baarlamaanka qaran yani xubnaha ka noqonaya soo gelaya oo xildhibaanada ahina ma matalaan ayay isu qaadeen inay matalaan maaragtay reer qabiilka ay ka soo jeedaan waxay matalayaan qaran heer qaran bay joogaan qaran bay matalayaan
wixii dambe oo baarlamaan la dhisayana maaragtay waxaa lagu dhisayaa formula kale saasoo ahaa heshiiskii la isla gaaray laakiin nasiib darro laguma socon waxay noqotay Soomaali oo loo taabtay muxuu ahaa boog meel garanaysaa awalba meelaan rabay roob ugu eri maaragtay kansar oo kansar ah oo maaragtay awalba loogu dawgalay oo loo damqeeyay bay noqotay loo taabtay waa tan ilaa maanta si xariga goosanaysa oo ka sii daraysa oo laga kala ilaahiyay dadkii على كل حال وحوي وحال ديس لو غوليسي احد قرن ان لا قرو waxa lagu goosay baarlamaan in la dhiso waxa lagu duuleysay madaxweyne in la doorto madaxweynahaasina oo ra'iisul wasaare magacaabo xukuumad la dhiso dib u yagleelkii dawladda Soomaaliya burburtay dib loo yagleelay wuxuu halistii ka badbaaday awal qoostii laga joogay waxa uu ka badbaaday maalintii taariikhdu ahayd 26 ama 26 Agoosto ama August ama Août 2000 habeenkii uu baarlamaankii cusbaa doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay burburka kadib isla maalintii ku xigtay oo ahayd 27kii bishan aan ku jirno oo maalintan hadda nagu soo dhow ayaa la qabtay xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub waxay ahayd maalintii rasmi ahaan calanka Soomaaliya ciidda laga qaaday hawada dib loo suray Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u dhiibay Cabdiqaasim Salaad oo ku yiri waa kaas kor u hay calankii la soo badbaadiyay dawladda Djibouti maalinkaas ayay xilkii ku wareejisay dawladdii la dhisay kuna taakuleysay in ay Muqdisho u guurto oo Djibouti joogitaankii Djibouti la joogay oo halkaa ku dhamaaday isla maalmihii ku xigay ayuu madaxweyne Cabdiqaasim Salaad waxa iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihii oo magacaabay Ali Khaliif Kalayr ay dhiseen xubnihii xukuumadda cusub markaas ayaa la soo gunaanaday guulihii labadii ujeedooyinka aan sheegay oo shirku lahaa labadii ugu horeeyay ee kala ahaa dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dawlad Soomaaliyeed sidaas ayaa loogu guuleystay oo talaabadaas ayaa labadiiba yani muxuu ahaa wakiil yani ay ka muuqataa in lagu guuleystay labada ahmed ama labada ujeedo ujeedadii saddexaad ee ahayd dib ugu celinta Soomaaliya haydaankii bulshada caalamka ee laga waayay iyadana toddobaadii ku xigtay ayaa lagu guuleystay oo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagoo wada madaxweynihii cusbaa Ismaaciil ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Salaad wuxuu dhaxgeeyay qaramada midoobay iyo fakarayaashii kale oo maartay muxuu ahaa Soomaalida xubinta ka ahayd laakiin 10 sano laga waayay AU iyo Midowga Afrika iyo Carabta iyo kuwii oo dhan himiladii afraad ee ahayd dib u dhiska dalka Soomaaliya waa midda ilaa maanta lala rafanayo oo inkastoo nasiib wanaag yani muxuu ahaa meeshii dalkan yaalay laga soo kacay oo tallaabooyin fiican hore loo qaaday laakiin dib u dhiskii dhabta ahaa waxa weeye fari kama qodna faanool dawladdii halkaas waxaase guul weyn ah in maanta Soomaaliya ay tahay qaran jira oo dawlad leh oo calan leh oo madaxweyne iyo maaragtay muxuu ahaa baarlamaan iyo dawlad iyo xukuumad iyo wax walba leh oo fagarayaasha adduunka oo maanta laga haybaysanayo shirkii adduunku isugu imaanayo maaragtay muxuu ahaa ay taagan tahay calankii Soomaaliyeed oo ka muuqda ka babanay dawladdii halkaa ka dhalatay ee Soomaalidu ah yani ay u taqaano dawladdii carta yani muxuu ahaa laguna loo yaqaan ay ku cambaxday magaceeda rasmiga ahna oo ahaa dawladda qaran ku meel gaarka oo af Ingiriiska maaragtay muxuu adduunku u yaqaanay TNG Transitional National Government markii ay dalka tagtay ee ay halkaas ka howlgashay wixii ay la kulantay wixii ay faa'iideysay iyo wixii ay muxuu ahaa ku fashilantay waa arrin u baahan in kaligeed lagaga hadlo fadhi u gaara oo weyn waliba oo saacado badan la siiyo iminkase inta yar ee ka harsan waqtiga aan haysto waxa aan jeclahay in aan ka gaarsiiyo jawaabta aan u hayo saddexda su'aalood oo harsan oo tan u soo horeysa ay tahay su'aashii toddobaad
oo ahayd muxuu uga duwanaa shirkii carta 11kii shir ee ka horreysay ee fashilmay maxay ahaayeen sababihii shirkaas ku caawiyey in uu noqdo kii ugu horreeyey ee lagu guulaystay waa su'aal muhiima waa meelaha casharada laga baran karo dhinacyada uu uga duwanaa kuwii hore waxaa ka mid ah waxaana ka duwanaantaasina ay tahay midda sababaha guusha yani kuwa aan leeyahay waxa weeye meesha lagu qabtay cidda qabanqaabisay iyo heerka daacadnimadeeda cidda maalgelisay iyo nooca maalgelinta cidda lagu martiqaaday in ay ka soo qayb gasho iyo ujeedka weyn ee laga lahaa shantaas ayaa uga duwanaa duwanaantaasina ay tahay yani midda keentay muxuu ahaa guusha keentay ay ahayd si kooban haddaan u dulmarno sababihii caawiyey guusha waxay ahaayeen oo isla taa horena yani ku salaysan meesha lagu qabtay awal waxaa lagu qaban jiray yani shirarkii hore oo dhowr iyo tobanka ahaa dalal shisheeye oo muxuu ahaa kuwa ugu sokeeya ay yihiin dalalkan aan dariska nahay oo la aaminsan yahay inay muxuu ahaa dantooda ka dhex arkayaan inaan dowlad soomaaliyeed oo isku xoog liime ay meesha ka baxdo yani inay dan u tahay dan u arkayn yani muxuu ahaa sida ay qabaan dadka soomaaliyeed intooda badan aan dan u arkayn inay dib loo dhisho dowlad soomaaliyeed oo xoog leh marka dalalkaas dariskaas shirarkaas waxaa lagu qabanayay dhowr ka mid ah Addis Ababa lagu qabtay qaar Nairobi baa lagu qabtay qaar waxaa lagu qabtay muxuu ahaa Qaahira yani muxuu ahaa dalka Masar London muxuu imaaraadka meelahaas lagu qabanayay marka kan waxaa lagu qabtay Djibouti marka waxay noqotay meel yani muxuu ahaa aan ahayn dal shisheeye taasina qayb weyn yani dad u tagay walaalahood oo u hiilinaya ayay isu arkayeen yani dadka Soomaaliyeed dadka reer Djiboutina waxay isu arkayeen inay walaalahooda martigelinayaan oo caawinayaan oo ay muxuu ahaa shootiga iyo ama fururka la kala jabsanayaan ayay u arkayeen marka waxaa مثلا shirarka kale shirkii ugu weynaa oo asaguna oo ka dambeeyay kii carta oo casharadii carta intuu qaatay maartay maxaa lagu guuleystay isagana inay dowlad lagu dhiso waxa weeye dadka Kenyaanka ah ee ugu sokeeyay jaarkana ama dariskana ma ay ogeyn intooda badan yani muxuu ahaa war uma hayn ama haday u hayaan kuwooda dhow oo arkaya Soomaali uun baa meesha ku shiraysa oo inay maqlayaan mooyaan iyo kuwa dantu ugu jirtay oo ganacsiga iyo waxaas ka faa'iideysanay ما هي يعني دن كمال هاي شركة يعني معها كسعودية ومعها ضوف الشلمة دي يقول لسه من دن طبعا مع هالك أي شركة Djibouti يعني ما لها وصل الدولة ده إلى عروض يدمر كما قلنا السوق شوكته يدك كمية كشوكة أي دكتور وتقنيد ومعها كسب حي دعاء الشهود دعينا يعني إله مركي كان تذكي شركة صومالية أو كرتان ومراها مرية ما guulaysta wixii ma keenteen umash xaradeen marka wax weyn marka shucuurta iyo wax weyn bay maaragtay muxuu ahaa ayay ka taraysaa waad garanaysaa faa'iidada ay yeelan karto psychology ahaan tan kale waxa weeye muxuu ahaa talada ciddii awal dadkii la isu keeni jiray oo shirka lagu martiqaadi jiray waxay ahaayeen sidii aan sheegay dadkii dhibta waday marka oo dagaalka iyo waxa si maanare maya live kan ku jira live muxuu ahaa marka waxa taasina qodob u ahaa yani dadkii talada ka go'aysay oo dhibanayaasha ahaa maaragtay dagaalka iyo dowlad la'aanta yani ay dhibaysay ayaa taladii lagu soo celiyey marka taasina waxay ahayd wax caawiyey maaragtay shirku inuu guulaysto ayay ahayd tan kale oo caawisay shirku inuu guulaysto waxa ay ahayd ka fogeyntii faragelinta shisheeye
oo ahayd yani muxuu ahaa go'aan sax ah inay Jabuuti go'aankaas ay qaadatay. Qodobka kale oo caawiyey wuxuu ahaa adeegsigii la adeegsaday maskaxmaalka halabuurka Soomaalida, fanka iyo suugaanta iyo warbaahinta ayaa waxaa loo adeegsaday si aad iyo aad u weyn oo wax allaala wixii jiray oo ama halabuur ahaa ama ahaa maaragtay muxuu ahaa fanaaniin iyo suugaanley iyo abwaano iyo ayaa la isu wada keenay oo halkaa ka soo saarayay yani wax dadka lagu gubaabinayo oo lagu wacyigelinayo oo u horseedaya inay heshiiyaan iyo inay dalka nabadeeyaan iyo inay dowlad dhisaan. inahaas iyo inahaasaa ugu waaweynaa inta aan kolleyba xasuusan karo oo shirka in uu guulaysto muxuu ahaa caawisay shirkuna uga duwanaayo yani kuwii ka horreeyey oo guulaysan waaye. su-aasha saddeedaad waxa ay ahayd ama haddii waqtigu waa socdaa aan ogaa qaar ka boodboodo aan u tagno su-aashii odhanaysay maxaa laga dhaxlay maxay ahaayeen midhihii laga dhaxlay howlgalkii taariikhiga ahaa ee ku magacoonaa intisaaca Jabuuti. marka la soo koobo dhaxalka muxuu ahaa taariikhda galay oo maguuraanka ah oo shirkaas laga dhaxlay waxa uu ahaa kow soo noolayn dareen wadaniyad dhimatay. dadkii Soomaaliyeed oo wadaniyad iyo wadan dowladnimo ka quustay ayaa mar labaad lagu soo nooleeyay dareenkii wadaniyad. dhaxalka labaad wuxuu ahaa dib u yagleel unug dowladnimo oo quus laga joogay yani asagana sidaa hore soo sheegay. dhaxalka saddexaad waxa weeye aqoonsiga xuquuqda intii dulmanayd. yani shirkaa falsafadii uu ku dhisnaa oo uu ku dadaalayay madaxweynaha Jabuuti iyo dowladdiisu waxay ahayd in la awoodeeyo intii awoodda laga farmooyo awal awoodda yani muxuu ahaa loo diiday oo looga xorbatay. haddii ay ahaayeen maaragtay bulshada caadiga ah, bulshada rayidka ah, haweenka muxuu ahaa dadka la yidhaahdo yani dadka laga tirada badan yahay oo muxuu ahaa in ka tira badnaantaas yani lagu dulmiyo iyo wixii la mid ah in la awoodeeyo. tan kale oo laga dhaxlay waxay ahayd abuuris dareen isku kalsooni oo dhintay. yani dadka wax la yidhaahdo isku tashi ayaa laga dilay yani dadka Soomaaliyeed. yani waxaa inay wax qabsan karaan keligood intay meel isugu tagaan ayaa yani meesha wax isu imaanaya iyo wax ma garanaysaa heshiinaya ma jiraan. wax quus ah ayaa u soo baxay dadka marka ay dhibaatadii ka badatay iyo waxyaalo badan oo fashilmay ay ka bateen. marka reer Jabuuti waxa ay bareen iyo madaxweynahoodu in haddaa isku kalsoonaato oo mustaqbalka aaminto oo muxuu ahaa adigu aad qabsato danahaaga inaad guul gaari karto. tan kale oo laga bartay waxa weeye taas waxaa la xiriira yani go'aankaaga inaad yeelato. haddii go'aankaaga adigu aad yeelato aan cid kale kuu go'aamin yani sida uu u noqon karo yani kii aad ku guulaysan lahayd. tan kale oo faa'iidada noqotay waxay noqotay isdhexgalka iyo isbarashada dad walaalaha oo hore u kala xirnaa oo dadka reer Jabuuti iyo kuwa Soomaalida. faa'iidada toddobaad waxa weeye dugsigii dib u heshiisiinta Soomaalida ayuu noqday yani shirweynihii Carta. wixii ka dambeeyey oo dib u heshiisiin awal yani waxaa lala mari jiray meel la hubo inaan lagu guulaysanayn yani shirarkii dib u heshiisiinta la qaban jiray. laakiin kii ka dambeeyey oo ku xigay oo Kenya lagu qabtay markii hore Eldoret markii dambe Mbagati ku caanbaxay waxa uu ka faa'iidaystay casharadii muxuu ahaa shirkii Carta waxyaalihii guusha u keenay. qaar ka mid ah ma wada isticmaalin laakiin qaar buu isticmaalay oo kuna guulaystay. casharada uu isticmaalay shirka Mbagati oo lagu guulaystay waxaa ka mid ahaa waqtiga shirka oo aan bis ugu goyn halkii kuwii fashilmay loo qaban jiray waqti yar kooban oo taariikhdaas bilaabanaya taariikhda dhamaanaya taariikhdii dhamaadkii marka la gaaro soo celiyay isagoo aan lagu heshiiyey lagu kala tegay. kan waa la furay sidii shirka Carta waqti looma qaban shirkii Carta dadku iska soo yaacayeen. waqtiga shirku soconayo wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyey kii Carta oo waqtiga uu soconayo iyo dadka ka qayb galay tiradooda midna aan la xadidin oo labadaba waa iska furaayeen
oo dadkuna iska soo qamaamayeen iska soo yaacayeen ilaa ay maaragtay muxuu ahaa 3,000 iyo kor u dhaafeen waqtiguna iska socday ilaa uu 6 bilood iyo 7 bilood maaragtay fooda la galay marka sidii xoogaa si oo eg ayaa la sameeyey shirkii Embegati inkastoo uga duwanaa halka Djibouti ay waxaas oo dhan culeyskooda qaadaysay kan Embegati adduunka oo dhan baa maalgelinayay oo dee waxba ugama baxayn maaragtay dowladda Kenya marka laakiin formulahaas wuu qaatay formulaha kale oo ama 10 kale oo uu ka qaatay shirkii Embegati uu qaatay wuxuu ahaa oo Carta ka qaatay tixgelinta bulshada rayidka ah taas oo markii ugu horeysay yani muxuu ahaa aan hore ciidina u tixgelin xisaabta ugu dirsan jirin yani 11 shir oo hore Carta ka horeeyay laakiin Carta oo koowaad laga dhigay oo lagu awoodeeyay shirkii Embegati qabqablayaasha dagaalka iyo wixii oo dhan waa loo yeeray laakiin tixgelin baa la siiyey muxuu ahaa bulshada rayidka ayaa ugu dhooda waxaa kaloo tixgelin la siiyey hogaamiye dhaqameedyada ayagana in maaragtay muxuu ahaa shirka laga qayb geliyo ayaa tixgelin la siiyey oo wixii faa'iidadooda ayaa la ogaa sida ay maaragtay muxuu shirkii Carta uga faa'iidaystay qodobka kale oo shirkii Embegati ka faa'iidaystay wuxuu ahaa ama casharkii uu ka bartay wuxuu ahaa shirka noocaas ah in aan laga bilaabin dowlad dhisid iyo awood qaybsi ma garanaysaa awood qaybsiga iyo dowlad dhisidda iyo awood qaybsiga in laga dhigo waxa ugu dambeeya oo shirka gunaanadkiisa loo tagayo laakiin marka hore in la sameeyo gogol xaar wixii loo baahan yahay oo diyaar garow iyo gogol xaar iyo dib u heshiisiin iyo waxa in yani maaragtay laga bilaabo casharkaasna uu ka bartay waa lagu dhaqmay isagana taasna waxa weeye waa tusaalayaasha laga soo qaadan karo maaragtay sidii uu u noqday shirkii Carta dugsigii dib u heshiisiinta Soomaalida gunaanadka iyo su-aashii ugu dambeysay jawaabteeda sida ay ugu muuqato su-aashaasi waxa ay ahayd maxay yihiin casharada laga baran karo taariikhdaas casharada jiilka cusub uu uga tilmaan qaadan karayo dhisidda mustaqbal wanaagsan iyo qarannimo tiirar adag ku taagan casharadaas waxaa ka mid ah in dadku hadday dantooda gartaan una midoobaan ay ku guulaysan karaan waxa ay doonayaan casharkaasaa laga baran karaa casharka labaad oo laga baran karaa waxa weeye waxtarka ay ku yeelan karto taageerada walaal ku jecel ama saaxiib daacad ku ah oo ku hagarbaxa casharka saddexaad oo laga baranayo waxa weeye waxaan baranay faa'iidada laga dhaxli karo isku tashiga isku kalsoonida isxilqaanka aad go'aansato in aad ka tala baxdo kaalmo shisheeye inaad ku kalsoonaato awooddaada oo muxuu ahaa aaminto in aad awooddaada wax ku qabsan karto cidina isma lahayn Djiboutiyaday ayaa awood u yeelan karaysa marnaba maaraynta iyo maalgelinta hawsha culayskeedu intaa leegyahay casharka afraad waxa weeye waxaan kala baranay farqiga u dhaxeeya saaxiibka runta ah iyo midka laba wajiilaha ah waxaan xusuusanay murtida caanka ah laga dhaxlay abwaankii weynaa laa u naxariista Ismaaciil Mire adida nin baa kula daalna kaa badan aan doonahayn inaad heshana daa'in abadkaaye yani wixii hore oo dhan sidaasay ahaayeen shisheeyihii nagu maaweelinay sharmaan idii qabanaynaa wadashisiina Soomaaliya caawinaynaa xaaladoodu inay ahayd qowda maqashiib waxna u qaban laakiin marka aad saaxiib ama walaal dhab ah oo ay ka dhabtahay baadida kuula deydaya inuu kula helo marka uu kuu soo gurmado waxtarkeedu inta uu leekaan karo ayaan baran waxaa muxuu ahaa ugu dambayn casharka ugu weyn ee loo baahan yahay in ay dhallinyaradu ka barato taariikhdaas dabcan waxay ii sheegeen saaxiibada qabanqaabadu ee machadka muxuu ahaa
geeska Afrika ee nabadeynta iyo horumarintu in audience-ga yani muxuu ahaa ka qaybgalayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijyadan inay u badan yihiin dhalinyarada marka sidaasaan ula kac maarata waxaan hoosta uga xaqiiqayaa waxyaalaha sida cidda aan la hadlayo oo hadalka dartood ugu dheeraanayo oo carabka ugu adkaynayo waa dhalinyarada maaragtay in ay maanka ku hayaan oo ay goosdambeedka ku qabsadaan oo ku camal falaan wixii jiilalkii hore iyo dadkaas warkooda iska da marka waxaa muxuu ahaa aan jeclahay in aan casharkaas dhalinyaradu in ay ka bartaan taariikhdaas heerka ay gaarsiisan tahay waxyeelada cudurka lagu magacaabo qabyaaladda kansarka markii horena burburiyey qarannimadii Soomaalida iyo dhismihii duntii bulshada Soomaaliyeedna googooyey intii dambe oo dhan oo la isku dayay in dib loo dhisana caqabada ku ahaa dib u dhiskeeda ilaa maantana handadaada weyn ku haya in ay hirgasho dowladnimada iyo dib u dhiska muxuu ahaa lagu howlan yahay maanta in dib loo yagleelo muxuu ahaa dib u dhiska wixii dumay waxaasoo dhan yani waxa caqabada ugu weyn oo ku ah waxa weeye waa qabyaaladda weeye waa inaad maaragtay ogaataan yani inta dowladnimada qabyaalad lagu dhisayo yani waxa weeye ma jirto dowladnimo iyo qarannimo sidii loo baahnaa u hirgelaysaa ma jirto waayo waxa fududaynaysa waxa wax lagu dhisaa ummaduhu meel ku gaaraan waa wadajir gacmo wadajir bay wax ku qabtaan wadajirkana waxaa cadow ku ah waxa weeye oo mar walba khilaafaad iyo aan laga waayayn magaranaysaa isku horimaad iyo isku dhac iyo isdagaalan lama waayayo inta maaragtay muxuu ahaa qabyaalad lagu dhaqmayo muxuu ahaa waa halkii uu ka lahaa yani waxaa laga joogaa 60 sano iyo wax ka badan markii abwaankii Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cali Suule uu lahaa dab iyo dhagax la isku dhiftay kala dhowra waxa ka dhigan gobonimada qabiil dhex galay kala dhowra kala dheer labadii kala dhowra gobonimada dowladnimo qabiil dhex galay yani ma weeye ma wada socon karaan qaran iyo qabiil isma qaadi karaan jawaab la yiraahdo waxa jirtay bari Djibouti ay sameeyeen isma qaadi karaan mid baa ku faysa tan ku faysana waa qarannimada waana hadda sidii dhacday maanta Soomaaliya waxaan jeclahay inay casharkaas si fiican u bartaan oo ay ku camal falaan muxuu ahaa jiilka cusub na dhageysanaya muxuu ahaa Soomaaliyeed marka jiilka waxaan leeyahay haddaad rabtaan in aad taariikhda wax ka barataan haddaad doonaysaan godkii ay ku dhaceen qarannimada ama ay qarannimada ay ku rideen jiilkii idinka horreeyey haddaad doonaysaan in aad mustaqbal sharaf leh ku noolaataan haddaad doonaysaan in aad asaagiin la sinaataan intaasoo dhan haddaad doonaysaan iska tallaala cudurkaas dilaaga ah ee magaciisu yahay qabyaalad qabiil maa iyo tolnimo iyo waa meesheeda qabyaalad siiba qabyaalad siyaasad ku milantay ka feejignaada kansarkaas aafeeyey sharaftii Soomaalida waa ka yani wixii aan soo daldalayay maanta oo dhan murtideeda yani meesha uu ku soo biyo shubanayo iyo casharka laga baran karo taariikhdii sida muhiimka u ahayd waa taas Allah idinku cadfo waa mahadsantihiin Doctore runtii aadan kaa mahad celinaynaa casharada muhiimka ah ee aad nala wadaagtay ku saabsanaa shirweynihii Carta iyo waxyaabaha laga baran karo waxaan rajeynayaa dee dardaaranka haddii ugu dambeeyey iyo casharka ugu dambeeyey aad dhalinyarada aad u gudbinaysay inay hoos ka xariiqanayaan oo ay ka faa'iidaysan karaan hadda waxaan u gudbaynaa marka ka qaybgalayaashaan u gudbaynaa meeshaan koox dhanaan gacmaha u taagan yahay marka su'aalaha shana isku raacsiin doonaa Doctore marka waxaan rajeynayaa inaad noodgaraysan doonto shana u qabana shana isku raacsiinaa qaybta qoraalka laftigeedana yani dadka aan gacmaha taagin qoraal ahaan inoogu soo gudbin karaan sidoo kale Facebook live-ka dadka nagala socda laftirkooda xitaa way Doctorka way weydiin karaan su'aalaha way noo soo qori karaan marka u gudbinayna okay marka qofka ugu horeeya Jamila soo koob wixii su'aalo gudaha u gal 2 daqiiqo haysataa
okay jamiil waa hil laanahay nawaal codka iska fur 2 daqiiqo haystaa go ahead hello nawaal codka iska fur hello waa ku maqlan gudaha gal xasan ma maqashaa waa ku maqlan gudaha gal ha waa mahadsantahay xasan doctorka aad baan ugu mahadcelinayaa labada su'aalood aan weydiinaya doctorka waxa weeye nidaamkan federalismka oo aan aragna siduu dowladeeni caqabadaha ugu yahay goormaa loo baahday su-aasha labaad oo aan kaloo weydiinaya waxa weeye barnaamijka 4.5ka oo 20 sano wadanku ku dhex jiro doctore maxaa isleedahay waa lagaga bixi karaa iyo xagee looga guuri karaa aad baa u mahadsantihiin okay nawaal waa mahadsantahay mid gal jamiila adaa kugu soo laabtay 2 daqiiqo haystaa gudaha gal ka qaad mid waa iska qaaday waa mahadsantihiin ugu soo horeyn waa salaamaya professorka Ustaad Maxamed Afrax sidoo kale adiga xiriiriyaha Ustaad Xasan Mudanaan aadan ku salaamaya haddii aan gudaha u galo yes wixii ka dhaxalnay ama wixii aan ka fahanay Ustaad karto waa maasha Allah hadda labada su'aalo isdul saarahan qabaa hadda ugu horeys ku bilaawan waxay tahay shirka carta qiimihiisa waan ognahay laakiin markasta waxaan maqalnaa Soomaalidu waxay u baahan tahay bulshisiin dhab ah ama qaybaha dhaqanka ama bulshada markaan dhex galno ama siyaasiyiinta saasay nagu carbaabiyaan waxa weydiinaa Soomaalidu ma u baahan tahay shir dib u heshiisiineed oo kii carta camala oo ayagu gudahooda isku meel galiyaan laguna qabto magaalo Soomaaliyeed kana madax banaan yacni international community-ga tan kale ee ku xigta su'aasha labaadna waxay noqonaysaa lisheek maadaama 20 sano kadib Soomaaliya in shir kasta ay qabsanayso ee ku leeyihiin ama ay soo qaban qaabiyaan dawladda shisheeye soo ma ahan dib u dhac siyaasadeed ama dib u dhac bulsho oo nagu dhacay mahadsantiin adaa mudan jamiil mid gal abshir toosane abshir mid iska qaad 2 daqiiqo haystaa وأنا مقلا وأنا سلامة يا هيبة دمان كقيب قلياش برنامج كان كروح البضن نص وديارسين سيدو كلو وحن آدي أدو مهد علنا يا دكتور محمد داير أفرح وهل كان نوغسو جيدي تاريخ فعوين وحن لنا علمي رأي عبادة إلهي كوبر كيو لبس سؤالات بان وضعانيقا سؤال شكوباد waxay tahay maxaa hortaagan dib u dhiska maadaama wajiga lagu jiro uu yahay hadeertan dib u dhiskii maxaa maanta hortaagan in dib u dhiskii uu hore u socdo su'aasha labaadna waxay tahay maadaama khilaafyo badan ay wadanka ka jiraan oo saamilay dad loogu yeeray iyo siyaasado isdiidan ay ka jiraan maxaa loo taabagelinayo oo loo hirgelinayo shirkii carta shir lamida oo dhammaan la isugu keeno khilaafyada dhiman iyo waxa hadda la isku hayo ee yarka xal looga gaari lahaa shirkaasi oo xal looga gaari lahaa intaas professor weydiin la aad iyo aad u mahadsantiin haybad waad mahadsantiin okay bishiro mahadsantahay mid gal doctor waxaan rabaa inaan aan raacsiyo su'aal oo yani la soo weydiiyay oo Facebook live-ka nagala weydiiyay qoraal ahaan sidee loo kala saari karaa siyaasadda Afrika iyo qabiilka يعني dhaqanka qabiilaysiga iyo siyaasadda Afrikaanka siyaasadda Afrika ama siyaasadda Afrika iyo dhaqanka qabiilaysiga sidee loo kala saari karaa taas waxa qoraal ahaan ugu soo weydiiyay Maxamed Qalimow ana soo weydiiyay okay qofka ugu qorantaa gentleman codka iska fur go ahead without go qofka gentleman ugu qoranta codka waan ka qaadnay awgal السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة مين واكم مقلنا gudaha marka hore waa in salaamaya heybad iyo doctor afrax waa in salaamaya waana mahadsan yahay doctorka iyo macadka labadiina waa idin mahadcelinaya waxaan qabaa dhowr su'aalo waa soo koobaya waqtiga aad u yar dartiis
دكتورك marka hore oo mahad celinaya anoo Djibouti ama carto waxyaabihii ay qabatay oo boqolkiiba boqol doorkeeda ay qaadatay laakiin dhowr su'aalood qabaa su'aasha koowaad waxay tahay dib u dhalashadii dowladnimada Soomaaliya soo lama dhihi karo 20 sano kadib weli ma aysan dhalan dowladnimada Soomaaliya sababtoo ah 20 sano kadib wax noo soo kordhay uma jeedno ka dhalinyar ahaan anaga ka dhaqan xumo dil barakac dowladii oo qalad laga fahmay dadka qaar dhalinyaradana 80 la dhihi karaa qalad ka fahmay ilaa hadda lama heshiisiin wixii dhacay yani 10 sano ee dowladda inta la dhisay 2000 dowladda la dhisay 10 sano dagaal jira dagaalaas laga heshiin oo dib u heshiisiin dhaba ma aysan dhicin lama sameyn heykal dowladeed oo munaasabka ah dadka Soomaaliyeed mana laga tashan taas bedelkeeda 4.5 la sameeyay marka su'aasha koowaad waxay tahay dib u dhalashada dowladnimada Soomaaliya soo lama dhihi karo 20 sano kadib weli ma aysan dhalan dowladnimada Soomaaliya su'aasha labaad maxay tahay sababta loo doorbiday shakhsi ka mid ahaa dowladii kacaanka ee jabhaduhu rideen haddii la rabay in dib u dhalashada dowladnimada Soomaaliyeed la sameeyo aniga shakhsiyan madaxweyne la magacaabo Cabdiqaasim waa ixtiraamaya laakiin nidaamkii aan ka sheekeynaya haddii dib loo dhalasho la sameynayo su'aasha labaad waay su'aasha saddexaad soo lama dhihi karo fiir gentleman qofkaas ka hadlaysa waay magaciisa sheeg madaxweyne Cabdiqaasim wuxuu ka tirsanaa nidaamkii la riday 90 okay hay shakhsiyan waa ixtiraama laakiin nidaamka ka hadlaa hay ka soco su'aasha saddexaad soo lama dhihi karo waxaa ku jirnaa maxmiyad maadaama qaranimada midoobay u soo magacaabo Soomaaliya qof u qaybsama u ah UN-ka waa su'aasha saddexaad haddii aqoon-yahanin shirki carta ay joogeen waa maxay sababta ay u arki waayeen dhisida dowladnimada dhisida in la dhiso dowlad yani inay ka hormarsiiyaan inay dowlad dhisaan ka hor in dadka marka hore horta dowladnimadii la burburiyay oo dhibaatada dhacday in marka hore dadka ay soo dhisaan la fahansiiyo dowladnimada la fahansiiyo wanaaga ee leedahay midnimada in loo sheego in dowladnimadu aysan ahayn wax la isku dulmiyo ama la isku dilo aqoon-yahankaas doorku ka qaatay muxuu yahay ma muuqay doorka aqoon-yahanka marka haddii aqoon-yahaniin kumanaana ay joogeen shirka gentleman wixii faahfaahinaa doctorka u deynana su'aashaadu waxaa waaye doorka aqoon-yahaniinta maxay ahayd taas ma maxay ahayd waa maasanta waxaan u gudbinaynaa qofkay ugu qorantaa iPhone bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamuud maxamed culusow ugu horeyn waa soo dhaweynayaa waana u mahad celinayaa doctor afrax runtii siduu ugu warramay shirkii cartay isuu dhacay waayo waxaan ka mid ahay dadka ka qayb galay weliba aad maanta waxaa ii qiiro gelinaya waxa weeye maalintaas uu xusay oo ahayd soomaalidii ka qayb gashay iyo madaxweynihii Djibouti markii laysku ilmeeyey oo ahayd ihiliya waayo waxay ahayd waqti uu soo dhawaaday shirkii qaramada midoobay oo ahayd 2000 maadaama uu asagu tagay 1999kii waxa laga sugayay asagoo wuxuu ku talagalay in asagoo madaxweyne wada inuu la tago muxuu ahaa shirkii 2000 marka aad bay deydkaas qiimo weyn u lahayd Soomaali ahaan soo noqoshadeedina ay u ahayd runtii maalintaas waa maalintii Soomaali iyo madaxweynihii iyo reer Djibouti oo dhan la isku ooyahay intaas kadib runtii laba arrimood aan rabay inaan mulaaxada ahaan aan fiiriyo mid weeyo hata marka la leeyahay qabiilka focuska la saarayo ma waysan ka habooneen in focuska la saaro dhibkan haystaa inuu yahay inaan la dhowraynin sharciga iyo nidaamka dawliga aan la dhowrayn qabiilnimadu macnaheedu waxay ku imaan kartaa wax la yiraahdo qofku marka eexduna waa wax dambi oo sharciga uu ku qoran yahay haddaad samaysid haddaad qof aad shaqo siisid adigoo uusan sharciga soo marin haddaad qof meel u magacaado marka inta aan mar kastaba qabiilka aan ku mashquulayno oo aan leenahay Soomaali dhibaatadeedu waxa way qabiil aanu focuska saarno Soomaali mushkiladeedu inay tahay sharciga iyo wixii lagu heshiiyo oo qoran ama federaal ha noqdo ama federaal la'aan ha noqdo wax alla wixii uu markaas loo gartay inay sharci ahaan u qoran tahay in lagu soo ma haboono markaas oo kale arrintaas ayaan mudaaxada ahaan aan rabay bal inaan ogaado ra'yigu ka qabo afrax midda kale
marka hadda la leeyahay dadka aan awoodda laga awood badan yahay ayaa muxuu ahay in xoog loo yeelaa la rabaa la yidhaahdo soo ayadu laftigeedu marka salka kuma hayso fikirka qabiilka ahay waayo qofaa ka xoog badan marka waa in qabiilooyinkii siday kale in dhexdoodii haddana miisaan ama daalac ay isku abuuraan iyadoo abuurayso dhibaato kale ay abuurayso waayo haddii qolo ay u aragto inay qolo kale ka badan tahay ama ka xoog badan tahay la yidhaahdo waxaa la empower gareeya ama la xoojinayaa qolo yar si loo xoog loogu yeelo inay hadhow ayadaas laftigeeda abuuri karto haddana mushkilad kale oo dalkii ku soo noqota marka in waxayna oo dhan inaanu isku koobno in sharciga la dhowro iyo eexda laga baxo soo kuma habboon intaan qabiil ku mashquulina maadaama qabiilku uu yahay wax jira dhaqankeena ka mid ah diinteenna ay ka mid tahay waa mahadsantahay okay waa mahadsantahay doctore waa mahadsantahay okay doctore 5 su'aal waaye 5 su'aal inoo soo koob waan u soo laabanaynaa wareeg kalaan galaynaa hadduu ilaahay raaxo iska soo gabagabeynaa وهاك بسم الله ما أنت سؤال شيء هو في الشيء وحال هاي نوال أحمد فدرالك كور مع الله بحضي اللي بس سؤالات بيلاي iyo 4.5 فهم حالة بحكرة مركا لبدا سؤال سيكوبا وحا محوها su-aasha hore federaalka markii lagu dhawaaqay lagu aansaday in ay federaal noqoto dowladda Soomaaliya waxa ay ahayd sanadkii 2004 markii shirkii ku xigay shirka Carta lagu qabtay Kenya Embagati loo yaqaano halkaasay ahayd waqtigaasayna ahayd markii la go'aansaday federaalka su-aasha labaad oo ah 4.5ka maxaa lagaga bixi karaa waxa weeye waa su-aal weyn weeye waxaa lagaga bixi karaa kow horta dadku inuu ku qanaco go'aan kale dadka Soomaaliyeed go'aan kale iyo matalayaashoodu inay qanaacadaas gaaraan in loo baahan yahay in laga baxo oo laga gudbo afka waa laga yiraahdaa dad badan baa yiraahdaa waa in laga baxaa laakiin dadka hoose ku dhagana waa jiraan kow in la go'aansado weeye laba waxaa looga bixi karaa markii nidaam dimuqraadi oo dhab ah la hirgeliyo oo ku dhisan dimuqraadiyadda xisbiyada wax la yiraahdo oo halka yani matalaadda lagu saleynayo qabiil lagu saleeyo axzaab iyo wax la mid ah Jamila waxa ay na weydiisay dib u heshiisiinta ma loo baahan yahay hadda in dib u heshiisiin shirweyne kale oo dib u heshiisiin la qabto muxuu ahaa iyo arrin ku saabsan waxaan su'aalo ku saabsan yani muxuu ahaa shisheeyaha iyo faragelintooda marka dib u heshiisiinta su'aalo dambana way ku jirtay oo akhyaar dambana maaragtay su'aalahooda way soo galaysay arrintaas dib u heshiisiintu marka haddaan isu geeyo waxa weeye waa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah inay dhacdo ayaan qabaa maaragtay anuu kolleyba shakhsi ahaan laakiin dib u heshiisiintii weyneyd dib u heshiisiintii loo baahnaa markii la qabanayay shirkii Carta iyo midda maanta loo baahan yahay waa kala duwan yihiin shirkii Carta dib u heshiisiinta loo baahnaa waxay ahayd ummad Soomaaliyeed oo kala tagtay oo wax ka dhaxeeya wixii ka dhaxeeya oo dhan ay burbureen oo meesha ka baxeen oo aan dowlad lahayn danahooda u taagan ayaa in muxuu ahaa khilaafaad ka jira waaweyn in laga heshiiyo oo la gaaro heer wax la wada dhisan karo dowlad la wada dhisan karo halkaasoo saaraa culaysku laakiin maanta waxa weeye dib u heshiisiinta loo baahan yahay wixii waa dhismeen wixii ummadda ka dhexeeyey waa jirtaa maanta dowladda calankii waa la taagay dowladnimadii waa dhisan tahay muxuu ahaa xisaabkeedii marka shuruucdii iyo waa la soo celiyey muxuu ahaa dastuurku meel gaara marka waxaa dal burbur ku dhacay oo waxaasoo dhibaatada soo maray
oo dhaqanka noocaas ee qabyaaladda iyo waxaa ku salaysanna ka soo jeeda waa khilaafaad iyo kama dhammaanayaan dabcan iyo wax kala tabasho marba heer bay joogayaan marka hadda waxay joogaan heer kala difan oo dabcan ka dhibaato yar kii waagaas ay wax joogeen mustaqbalkana way sii jiri doontaa kolleyba mar walbaba waa jiri doonaan yani khilaafaad iyo wax la isku hayay iyo laba qolaa halkeer ma garanaysaa isku yaacyaacay oo maaragtay islaayay iyo waxaas waa jiri doontaa marka laakiin wixii caqabad ku noqonaya dowladnimada iyo waxa la wada leeyahay yani halista mar kale in burbur nagu dhaco wixii ku noqon kara in yani laga heshiiyo oo la turxaan bixi la qodxa bixiyo waa loo baahan yahay taa iyo waxaa isu imaanaya saaxiib lahaa magaciisa dib baan ka arki doonaa shir kale oo maaragtay weyn oo waxaa laba qof baa weliba ka shanqareeyey oo kii dib cartaa oo kala ah dib heshiisiin ah oo dalka gudihiisa lagu qabto ayuu lahaa marka waa fiican tahay yani fikraddu haddaba waa la soo qabtay dhowr jeer oo layidhi dib heshiisiin maaragtay la isugu yimi oo dalka gudihiisa waxaan xusuustaa wasaaraddii muxuu ahaa wasaaradda arrimaha guduhu yani maaragtay shirar ay qabanqaabisay hadda ka hor iyo waxyaalo la mid ah marka shir kastoo horta dhacaya hadda kadib oo soomaali iyo masiirkeeda lagaga hadlayo dib heshiisiin inuu gudaha ka dhaco oo ay dadku ayagu isku tashadaan waa lagama maarmaan dowladdooduna ay maaragtay kaalin hormuudnimo ay ka qaadato muxuu ahaa wixii jirana in laga heshiiyo caqabad noqon kara waa iyaduna waa arrin lagama maarmaan oo jirta weeye bashiir wuxuuna weydiiyey maxaa hor taagan dib u dhiska dalka dabcan dib u dhiska dalka wax waa laga bilaabay oo cartuwa ka soo bilowday oo waxaa dib loo dhisay maaragtay dowladnimadii oo watan lahaa waxaan la yidhaahdo national institutions ingiriiska lagu yidhaahdo ama hay-adaha qaran oo tiir dhexaadka ah oo dastuur ama axdi dastuur oo kalaa iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo xukuumad iyo waa la dhisay waana dhisayn ilaa maanta nasiib wanaag oo marba waa dib baa loo dooranayo loo dhisayey iyadoo salka ku haya oo aabe uu ahaa oo hooyada dhashay waalidka dhalay oo ahaa dee shirweynaha carta laakiin waxaa dib u dhisku halkaa kuma eka dib u dhiska waxa weeye dib u dhis siyaasadeed dib u dhis dhaqaale dib u dhis bulsho dib u dhis aqooneed waxaasoo dhinacyada nolosha oo dhan baa dib u dhis u baahan marka dhinacyada dib u dhiskooda uu qabyada yahay yani muxuu ahaa waxyaalaha hortaagan waa waxyaalihii dee ka dhashay dhibaatooyinka jira oo aanu dhaxalay oo ama ha noqdeen dhibaatooyinka burburkaasi keenay ama dhibaatooyinka maaragtay dhaqaale xumada iyo awood yarida iyo waayo aragnimada ay maaragtay dowladnimadu maaragtay muxuu ahaa waayo aragnimadooda ay nagu yartahay marka ma yara waa arrin u baahan su-aashaas jawaabteedu arrin in cilmi baaris dhan la geliyo oo laga diyaariyo muxuu ahaa warqad cilmi baarisan ama buugaadba waase ku mahadsan tahay inaad keentay yani su-aashaas yani waa su-aal aad muhiim u ah oo runtii u baahan yani in aad loogu fiirsado su-aasha labaad waxa ay ahayd waa midii jawaabteeda aan hormariyey oo ahayd yani carta shir kale oo shirweyne kale oo kii carta lamid in loo baahan yahay maxamed khaliil oo miyuu ahaa waxaan maleeyaa ninkii waxa weeye ka hadla ka soo diray fariinta facebooka xasan ila socodsiiyey waxa weeye siyaasadda iyo afrika sida loo kala saari karo waa arrin run oo jirta yani keligan maaha afrika iyo wixii kale oo meelo duruuf ah qabyaaladdu inay ku tahay cudur yani maaragtay dowladnimada faraha kula jira oo dhibaatana ku ah shaki kuma jiro sida looga furdaamin karo oo looga dheerin karana waxa weeye haddii la go'aansado oo dadka wacyigooda uu heerkaa gaaro ay ka dhabka tahay la furdaamin karo weeye laakiin haddii kale yani dhibkeedu waa taagnaanaya gentleman dowlad soomaaliyeed weli dib uma dhalan ayaa ay ka ambaqaadaysay maaragtay asaga doodiisu marka waxa weeye dowlad soomaaliyeed dib uma dhalan dabcan ma qabo yani gentleman lama qabo dowlad soomaaliyeed dib waa u dhalatay oo ususkii ama tiirarkii dowladnimo ku taagneyd oo aniga sheegahayo waagaasna dib loo dhisay weliba waagaas si tabar daran oo maaragtay bay ku bilaabatay laakiin marba marka ka dambaysa way soo yara xoogeysanaysay inkastoo weli hadda ayan xooggii loo baahnaa iyo awooddii loo baahnaa iyo waxqabadkii loo baahnaaba oo maaragtay muxuu ahaa nuqsaan weyne ay ka jirto
laakiin waa taagan yihiin tiirarkii dowladnimadu laakiin waxaad tidhaahdaa ay la tahay igala saxsan inaad tidhaahdo waxqabadkii looga baahnaa in ay dowladii muxuu ahaa dalkeeda horumarkii loo baahnaa inay gaadhsiiso iyo waxqabadkii loo baahnaa ayaa waxaa laga tabanayaa intaasoo wax oo ciiddaa ka badan oo maaragtay qabiyo ah waxay la tahay sidaasaa ka saxsan in loo dhigo haddaan hore uga soo soconno muxuu ahaa arrintii ay Soomaali maxmiyad inay weli ku jirto taa hore oo kale ayay maaragtay muxuu ahaa ku xirmaysaa ayay la tahay sidii wax maxmiyad ku jireen u egtahay maadaama UN iyo maaragtay muxuu ahaa waxaan beesha caalamka la yidhahdee waxaas ay faraha kula jiraan oo joogitaan weyn ay ku leeyihiin oo weliba ciidamo shisheeye joogaan iyo waxa weeye way jirtaa arrintaasi in ay magaranaysaa muujinayso nuqsaan ka jirta weli dowladnimo si buuxda cagaha isugu taagtay oo aan isku filaaday yani dowladnimo buuxda oo Soomaali dowlad yani muxuu ahaa cagaheeda si adag ugu taagan oo masiirkeedu si buuxda gacanteeda ugu jiro oo cid kale yani muxuu ahaa shuqul ku lahayn ma ay weli ma gaarin waana meesha la higsanayo in la gaaro maaragta loo socdo aanu rajaynayno mar haddii aan taa la gaalina waxay ku xiran waa tii hore oo kale oo nuqsaantaa jirta way ku xiran tahay wax la bicidsana maaha wax la yaabi karo ama cid si gaala loogu canaani karo bay la tahay waxa weeye oo wax ka dhalanaya duruufahaas oo waddan burburay yani dhisan oo weyn oo ka kooban yani maaragtay 10 dabaq yani muxuu ahaa waxaa lagu burburin karaa daqiiqado yar haddii miina lagu xiro laakiin markii la dib ha loo dhiso waqtiga ay qaadanaysa juhdiga iyo maalka waa wada garanaynaa taa weeye middan haystaa bay la tahay waa la tahay inaan laga boodin ay muhiim tahay aqoon-yahankii carta shirkii carta lagala tashaday ahaa ciddii ugu horreysay shirka isugu tagtay ee ka tala bixinaysay maxay u keeni waayeen fikradda ah in wacyigelin iyo marka hore lagu gobol xaalo way jirtay laakiin waanay hirgelin way jirtay oo waxa weeyaan halkaa markii aanu isugu tagnay oo weliba ahaa maaragtay dhowrkii qof oo sidii aan carab ku dhuftay ugu horreeyay xataa shirka qabanqaabadiisa maaragtay muxuu ahaa ku jiray oo documentskii oo ahaa saldhigga diyaarintooda iyo markii dambe wixii ka soo baxayay aqoon-yahanadaas oo dhan ay isla garteen iyo waxaa marka haddii uu xasuusto xaqiiqdu waxay ahayd in taladii aan soo jeedinay waxay ahayd in wax la yidhaahdo waxaan laba formula jira afka ingiriiska lagu kala yidhaahdo top down iyo bottom up wax kor laga soo bilaabo hoos u dega iyo wax hoos laga soo bilaabo oo kor soo gaara marka kaa bottom up kaaba waa kii markii hore aanu qabnay oo ahaa in hoosta laga soo bilaabo oo marka hore ergooyin nabadeed iyo dad soo wareega oo dadka soo wacyigeliya oo muxuu ahaa ka soo dhaadhiciyo bulshooyinka iyo degmooyinka kala duwan iyo deegaanada magaranaysaa iyo muxuu ahaa in yani shirka yani waxa hindisahani waxa uu yahay waxa loo baahan yahay iyo sidii looga gudbi lahaa waxa xaaladda taagan laakiin markii dambe duruuftii jirtay iyo dadkii soo yaacay iyo culeysyadii bandhaa iyo talooyinkii ay keeneen dadkaa tirada badan soo yaacay iyo wixii dambe oo loola tashanayey ayaa keentay khasab ka dhigtay sidii hadalkaygaan markii hore ku daray oo sidii uu 4.5 ku yihiin maaragtay ku macnaynayay taasaa khasab ka dhigtay in formulihii kii labaad la qaato oo ahaa top down in kor horta sensaabkii dhismihii kore lasoo dhiso oo dowladnimada ahaa kadibna uu hoos u dago yani dowladdaas u howlgasho sidii maaragtay bulshada loo wacyigelin lahaa iyo sidii hoos looga dhisi lahaa oo magaranaysa waxa loo baahan yahay loo qaban lahaa doctor maxamuud culusow oo aan salaamayo oo raggii halkaa nala joogay maaragtay ka mid ahaa maaragtay aqoon-yahanada ahaa oo aan aad u garanayo oo aan aad u salaamayo fikrado yani muxuu ahaa aad u wanaagsana soo jeediyey oo ama dood maaragtay uu igala doodayo qabiilka intii magaranaysaa la saari lahaa eedda inay tahay in la saaro sharci diidka iyo cadaalad darrada waxay la tahay in laba arrimood inay tahay oo in la kala qaado inkastoo ay mararka qaarkood isku xirmayaan
laakiin in la kala qaado loo baahan yahay waxa weeye shaki kuma jiro eexda iyo yani cadaalad darradu iyo garab ku tumashada sharcigu in ay tahay aafo weyn oo ku ah caqabad midnimada iyo hirgelidda dowladnimada shaki kuma jiro taas laakiin waxaan qabaa iyada qudheeda ayaa waxay salka ku haysaa qabyaaladda yani qabyaaladda ayaa doojinaysa eexda yani inaga ka jirta maaragtay muxuu ahaa soomaalida dhexdeeda iyo soomaaliya waxay la tahay in ay kaalinta koowaad oo ugu weyn ay qabyaaladdu ay ku leedahay oo ninka mas-uulka ama ninkii awood haysama ciddii maaragtay ay inay cadaalad samayso cadaalad yani eexda yani dadku sida ay qabiil ahaan u kala xigaan iyo sida ay u yihiin loyal ugu yihiin maaragtay ninkaas inuu ugu kala eexdo ayay ila tahay yani muxuu ahaa inay cadaalad darrooyinka dhaca inay kow ka tahay oo ay ugu horeyso marka waxaan qabaa halkii la oran lahaa qabiilka yaan qabiilka la taaban oo wax laga sheegin oo la sheegin inuu ciladda uu ku yahay dowladnimada muxuu ahaa hirgeliddeeda halkii laga oran lahaa in la yidhaahdo qabiilka keliya yaan laga dhigin hala tiriyo waxyaalaha dhibaatada ku ah oo dhan yani dowladnimada iyo muxuu ahaa waddadii sax ahayd in la maro oo qabiilka ay soo raacayaan ay weheliyaan intaa uu sheegay maxamuud oo ay ka mid ka yihiin cadaalad darrada iyo sharci ku dhaqmi la'aanta iyo eexda iyo ay ka mid ka yihiin tii labaad oo ahayd yani awoodeynta muxuu ahaa dadkii loo awood sheegan jiray waxay la tahay waxay ka mid tahay isla qodobka uu taabtay maxamuud ayay laftiisa soo gelaysaa oo ahayd cadaalad darrada haddii ay tahay inaan la dirirno oo meesha ka saarno wejiyada cadaalad darrada waxaa ka mid ahayd oo weliba ilaa soo jireen ahayd marba marka dambaysana soo xoogeysanaysay cadaalad darrada iyo gaboodfalka lagu sameeyo ciddii loo itaal sheegan karo oo wax laga marogsan karo oo ah intaa aan sheegayay oo magaranaysaa markii shirka carti la joogo la yidhaahdo ha loo cadaalad yani ha laga daayo gaboodfalka iyo cadaalad darrada marka waxaan qabaa waa muxuu ahaa waa niba soo dhaweeye haddii si ayagu marka haddii la awoodeeyo ciddaas oo marka awooddii ay si qaldan u isticmaalaan oo ama sadbursidoon hadhow sidii kale dhinacii kale isu roga ama muxuu ahaa amar ku taaglayn ay maaragtay yidhaahdaan muxuu ahaa anaga awalna ku amar ku taaglayn jiray maantaan garanaysaa ana amar ku taaglayn ninka ciddii tiraahda waa meesheeda waa wax maaragtay ayagu muxuu ahaa wax ka sheegid leh oo meesha marka sidaa darteed muxuu ahaa waxay ila tahay inayan qaldanayn ee ay sax ahayd in la yidhaahdo ha loo cadaalad falo wixii cadaalad darro lagu hayo waa mahadsantiin okay doctor waa mahadsantahay waxaan sameynaynaa xilliga maqribka soo dhow marka hal wareegaan gelaynaa waxaan dib ugu laabanaa qof jabuuti nagala socda soomaali ben jabuuti qofkay ugu qoran tahay fadlan iska qaat meeting iska qaat magacaada ku bilow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وحاش عبد الله أرح. ما شاء الله. وحن كملها بدي قبل قابل شركة عساك. مقعدين وحو بدي وحو صار على عبدي أو وزنت خارج لها. أيها أهم بدوري أنا بدوري كلها بقاها. مركا هذا بدل واحد. waxa ka dad hadal ka maaragtay suugaanta ka yaqaanaa Soomaaliya ka yaqaanaa kaloo ka baabalaaba waxa afrax baa igu horeeyay oo afrax baa wixii baa laastay su'aalaha jawaabteeda sidii baa qaatay halka cadaalad ma sameeyeen baa leeyahay kan labaad waxaan bogaadin u dirayaa dr afrax oo ilaahay ku ballaystay laabta u furo fasiixa oo si wanaagsan oo istaagar leh oo dhisan uga soo hadlay carta shirkii cartaad
nin waxa la yidhi hooyo dhashay halba dhaafi waaye doctor afrax taasina waa cadaalad baan u samaynayaa gabayga baadida nin baa kula diiday uu lahaa waxa ahaa qamaan bulxan ee madahayn ismaaciil mere oo saaxiibkeena intaa waa kula kaftamaya iyadana oo cadaalad samaynooda ku jirtaa anigu hadal badan oranaya carta shirkaasi wuxuu ku ladaxo ugu weynaa oo u dhaafay waxay ahayd shirka cartaan ka dhiglo 40 kilomitir bay Djibouti u jirtaa telefoonada mobilkana waagaa ma jirin kani fikiska baalka jiraa ku laban baa jiray marka cartaan nidi oo sababta loo keenay istiraatiijiyada laga lahaa waxa weeye inaan safaaradihii alla hadliyo dadkii ka taqabay marka warroolladii iyo wixii ka soo jeeday shirkaas talabaad taskaxada xusuusinaya waxa weeye saaxiibkay uu dulmaray waxa wardroon iyo wixii shirkaa ka soo jeeday baabiyey waa eegii amniye bulshada rayidka ah iyo ka qayb galaysa culimada siyaasiyiinta abwaanada amniye bulshada rayidka ah ayaa meeshaa keenibaa iyadu lahayd halbowle shirkaa cartaala 40 kilomitir buu jiraa Djibouti kow ta afraad waxaan samaynay oo guddigayadii sameeyey radio Djibouti ka hadla oo shirkaa uu ka hadla oo Soomaaliya ay maqlayna kaasina wuxuu burburiyey warkii wuxuu shirka iyo wixii ka soo jeeday shirkaas maaragtay dadka ku oran jiray lafaafintii ayaa halkaasina baabiisay waani bogaadinayaa koob raggii lasoo qabaqaabiyey waxaan bogaadinayaa afrax oo lambar 1 maaragtay meeshaasi ilaahay de waa adigaa fahmalo ilaa labta ku furay buu si wanaagsan oo si disana oo istiraagda cilmi ku disana uga warramay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي دكتور حقنا أسوق هنا وحكلو إسرع رعسيسا جبنته حلقة صلاة المغرب عن وصلوا مركا بدينو سو جبي كده من أساس الحرنا إن شاء الله. وعجب وأنا فرحان عليك ونالك طبعا مركلة وجين مع العليا هو صاحب هذا عباد مع معدك جالس أفريقيا أنا يهرمرنتا دلال كان هل كان معرفة فرصة شو كاي كنتين وحن دتكي سؤالها يفكرها ونعكسن كرسوا غيب قلنا شلون كله معرفة وماسين ugu dambeeyay saaxiibkay xaashi cabdullaahi orax oo sidaa uu sheegay maaragtay ka mid ahaa dabcan tarkii tirarka uu ahaa shirka arrintaa aan kasoo warramayay yani muxuu ahaa maanta oo dhan waana runtii maadaama uu sidaas ahaa waxa weeye waxyaalo aniga qudheedu aan magaranaysaa ka muxuu ahaa ku habboonaa in la sheego oo badan oo aanan sheegin ayuu qaarkood maartay igu soo biiriyay waa ku mahadsan yahay dabcan kamid bay ahayd markii aan carabka ku dhufanayay muxuu ahaa sababihii uu najaxay waxyaalihii caawiyey in uu guulaysto shirkaasi inay ka mid ahaayeen adeegsiga laba saameeye oo aad u qiimo badan oo kala ah halabuurka fanka suugaanta iyo warbaahinta uu ka bixiyey tusaale oo markaa runwaye aad baan maaragtay runtii aan waxaa laga bixin intii riwaayadood la sameeyey intii muxuu ahaa gabayo iyo heeso iyo barnaamijyo muxuu ahaa warbaahin kala duwan ka bixi jiray yani telefishinka iyo raadiyaha Djibouti RTD la yiraahdo oo malaha barnaamijyada waqtiga inta ugu badan siin jiray muxuu ahaa shirkaas wacyigelintiisa iyo ka warramidiisa iyo channelkaas gaarkaba u ahaa oo loo sameeyay Soomaaliya maqal la oran jiray oo
isagoo ahaa satellite ku bixi jiray oo adduunka oo dhan laga daawan jiray yani saamaynta uu lahaa waxa weeye waxyaalahaas ma jirin yani shir kale oo loo adeegsaday sida maaragtay xoogan oo shirkii carta loogu adeegsaday marka waa ku mahadsan yahay inuu faahfaahintaas ku daray qolyaha iyo bulshada rayidka taabashadeeda markii aan lahaa intii awal loo xoog sheegtay oo go'aanka waddanka inay wax ku lahayn oo kale laga soo qaaday ama sidoodaba lala agmaray yani muxuu ahaa taladii waddanka sidii loo badbaadin lahaa ayaa la awoodeeyey markaan lahaa kuma koobnayn maaragtay yani dadka qabiil ahaanta maaragtay loogu awood sheegto ama la yidhaahdo waa magaranaysa la takooro ama la yidhaahdo waa laga tira badan yahay inkastoo aan ciidina isu tirin oo arrintaa lafteeda aniga su-aali fari iga taagan tahay waa laga tira badan yahay iyo waxa weeye ma ahayn kuma koobnayne bulshada rayidka kow ka ahayd oo falsafadii shirweynaha carta ku dhisnaa oo ismaaciil cumar geelle uu kuwa bilaabay oo xataa khudbaddii uu UN-ka ka jeedinayay oo maaragtay aad hoosta uga xarareegay waxay ahayd in la awooday bulshada rayidka ah oo loo awood sheegtay oo ay qabqabalayaashii dagaalka iyo wixii siyaasadda horboodayey awooddaas oo hubaysnaa ay ka marooqsadeen maaragtay xaqii ay u lahaayeen talada dalka inay wax ku yeeshaan loo diiday in ayaga kow laga dhigo oo laga bilaabo oo awoodda lagu soo celiyo bay ka mid bay ahayd waana waxyaalihii maaragtay muxuu ahaa guusha caawiyey bay ka mid ahayd marka hadalkayga afyaafteyda waataan ku hormariyey waxay u baahan tahay kutubo dhan oo waaweyn oo laga qoro iyo maalmo iyo habeenno badan oo isku xigoo laga hadlo haddii la yidhaahdo ha la wada sheego wixii muhimka ahaa oo arrintaas la xiriiray mawduuca maanta aan ka hadlayno laakiin waxay la tahay intii ku filan waqtigan in aynu isweydaarsanay marka idinkuna mahadsantihiin intiinii maaragtay muxuu ahaa ku soo biirisay fakarka iyo su-aalaha iyo fikradahana sidoo kale waa ku faraxsanahay oo weliba saaxiibo maaragtay muxuu ahaa ragaanu saaxiibnahay xataa inaanu ku kulannay ay fursad noqotay aanu ku kulanno madashaan marka waa intaas iyo waa idinkugu hambalyeynayaa qabanqaabayaashiinana inay ahayd muxuu ahaa tallaabo lagu guulaystay waa hambaliyo waana ku mahadsantihiin okay doctor waa mahadsan tahay anigoo ku hadlaya afka macadka hibad runtii aadan kaaga mahad celinayna waqtigeeda qiimaha badan sidoo kale ka qaybgalayaasha adinkana waa idinka mahad celinaynaa in aad hal saac almost 2 saac ku dhowdahay inaad noo dul qaadateen oo muxaadarada dhegeysateen doctor waa mahadsan tahay